بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، waxaan doorbiday maanta inaynu eraya ka nidhaahno mawduuca walaalkay tilmaamay, iyadoo laga yaabo markii hore wixii maskaxdayda ka guuxayay inay waxyaabo badan oo kala ahaayeen, laakiin nadwadii shalayta halkan ka dhacday inba waxay dareensiisay mala inaan wax ka idhaahdo mawduuc nooca ku saabsan annadwa siyaasiya amis culimada halka ku galaysay. waxaynu u baahanay inaynu tilmaamno macaalim iska guud oo laga yaabo inta badan inaad garanaysaan, laakiin aan jecelahay inaan dib idin xasuusiyo, waayo siyaasat lumma asiyaasa, inkastoo eraygu aad moodo wakhtiyadan dambe ama cusurtan dambe eray la nacay inuu eegyay oo kaanama siyaasa iyo siyaasiya waxaa markaad maqasho kaanama nifaaq iyo munaafiqnimo iyo wax la hadle laga hadlayo kale u eg tahay, laakiin waxaynu naqanaa siyaasat lumma inay tahay ricaaya shu'uuni innaas, ilaalin la ilaaliyo ummadda shu-uunteeda. saasa yasuusu yacni min hada alqabiil inay ka timi, dadka ilaaliya ummadda tanina inay dad gaara iska ahaayeen, oo xataa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo reer banu israa'iil, kaanat banu israa'iil tasuusuhum alanbiyaa kulamaa halaka nabiy khalafa nabiyun min bacdi walaa nabiya bacdi. wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam banu israa'iil waxa siyaasadooda wadi jiray ama hoggaankooda hayn jiray ama hagi jiray ummadda. siyaasaddu waa hagitaan, dad la hago, salaa wanaagga lagu hago iyo xagga khayrka qabta. waxaa hagi jiray buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam reer banu israa'iil ambiyo ama se nebiyo. nebiyadaasi khayrkay dadka u hoggaamin jireen. kulamaa halaka nebiyun khalafa nebiy, marka nebi uu geeriyoodaba nebi kale ilaahay soo diri jiray subxaana wa tacaala, walaa nebiya bacdi buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay siyaasat lumma waa qadiyadaasi ricaayada ku saabsan, ricaaya shu'uuni innaas aw shu'uuni lumma. markaynu ummadda hoggaaminteed ka warramayno iyo riixitaan loo riixo xagga khayrka qabta iyo wanaag lagu hago, waxaa habboon marka hore in waxoogaa aynu ka nidhaahno malaa kooban caqabaadka ummadda haysta ee u baahan in laga hago markaasi ama loo toosiyo. cumuuman qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay kitaabka qur'aanka ah iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin waxyigii alla soo dejiyey ee loogu talagalay in lagu hago oo lagu hanuuniyo bini aadamka dhammaantii. innaga haddaba dhibtayna haysataa ma mushkilad ama ma dhibaato dadba qiyaada dhibaatadeed qura miya? ma dhibaato shacabba? ma dhibaato caalamiya aan gacanteenna ku jirinba? waxaanaynu u baahanay inuu hagnaa muxuu yahay? waxaad moodaa ummaddeennu inay isku dayday inay qof beddesho, dabeetana way beddeshay, waxbaa iska din waayey, way ku noqonno waynu bedelle. lixdanaadkii qaar baa la saaray, dabeetana waa la dhigay, waa laga quusto, waa la beddelay. kuwo kalaa la saaray, waa la beddelay. kuwo kalaa fuulay, waa la beddelay. ilaa hadda waa la beddelayaa. kullamaa beddelka la beddelabana waxaabaad moodaa ilal aswa uunba inay usii socoto, xagga hoose inay usii socoto. mushkiladdayna haysataa markaa ma mushkila qiyaadiya faqad ba? ma mushkilad jamaaca ba? waa dhibaatadeednu waa noocma, caqabaadkayna hortaaga waa noocma. waxaan leenahay caqabaadkayna hortaagani
ودور عقبة وحنا نذكر عقبة عالمية وين هرتاجنت وشالتين بدل لجوع العلني دوني دين يكونوا لين شياطين ماكرة وأن خير كتشعلين ضد بدن ودنا استيالة عالم كيو مانتا النقضي كبدير وميل كستبا دور ساعدات لجو قاريو أخبارتي سيسكو قاردا وقت الدقيقة ذكير بث مباشر أما تي في وعالم كيكرد واقعيا ودوني ده هالك قدام بيسوي حكرد سكن كيبا وهالك كلا قاريو أديكو جورجا جي ضد كعقد كتمي من وراء الستار لقى تأثيرنا أيه وهالغيابة أمدن أو الصوماليين إني بي سي هكتو وهالغيابة أمدن الداية وهالغيابة مقالة دو شوجا مقالة الجودة هذا وحكرنا عينه يوكو هجان أو كاجا والرمات لا بي سي ما ترجستوا حليلي سكده سيتش دخل اسكت شيء وماشي شوكته هذا أيها لقى هجية أو لقطوسينية عقبة عالمية بشرتها أدوي oo ay ugu tala galeen dadka markaas saytaradaas ay gacantooda ku jirta inay caalamkan sii dumiyaan aan iyaga ahayn caalamkan iyaga ahayn matxana buu ku jira ama taayir wareegayu saaray aan loo naxaynin kaasi waa caqabad jirta caqabadka caalamiga ina haysta waxa kamida waxaynu dhaxalay waa isticmaar maanta bilaabmiya waxa kan ma aha waa isticmaar aynu quruun ku soo jirnay waxaynu dhaxalay dacfi tiro badan oo dadkii muslimiinta markii hore haystay waxaynu dhaxalay ahd al-isticmaar iyo dacfigu ka tagay waxaynu dhaxalay thaqaafaadkii reer galbeed iyo aragtidoodii iyo wuxoodii wali sidii inoogu dhex jira waa caqaba meesha taagan waxa kaloo ina haysta dib labaad oo ina hor taagan dibta labaad ee ina hor taagani waa dib shacbiya waa dib ummadda ka timi xaggeeda ummadda aynu rabno inaynu hagno ummadda aynu rabno inaynu hanuunino waa dib iyada ka timi dhibtaasi ka timi kow waxa ka mid ah aljahaala bikulli anwaaciha waa ummad aan xadaaro lahayn ee jahli u daboolay jahligaasi wuxuu ka haystaa dhinacyada oo dhan waa jahli aada u ballaadhan waa jahliga gaadhsiisan inaynu gaajo u baktino iyadoo kalluunkeenna baddu ay soo tufto yani qof gaajo u baktinaya oo badda dhinac taagan oo haddana baddu kalluun ay soo tuurayso dabadda usoo tuurayso gaadhi kari waayey inuu kanuun cuno ama si uu u cuno garan kari laha xabad kalluuna si uu u qabsado samaysan kari laha waa jahli nolosha jawaanibteeda oo dhan inaga haysta nolosha la nool yahay jawaanibta ay leedahay oo dhan waa jahli inaga haysta oo aad u ballaadhan ha ku xisaabtamin beersantka yare wax bartay waa jira tiro yare wax baratay laakiin markaad ummadda u eegto Soomaali la yiraahdo waxaad dareemaysaa inay yihiin 1% inaanay noqon karin haddaad badisa inaad tiraahdo waa 2% inta wax qorqorta ummadda 2% ay wax qortaa waxaad garan kartaa dhibtu halka ay ka gaarsiisantay xataa mabda aynu ugu yeedhayno ee rabna inaynu ku bedelnaa dhibtaas ka haysata oo islaamka laftiisu aanay fahamsanayn in yar oo ay dhaxleen oo heritage ahaan ama dhaxaltooy ahaan ay u haystaan mooyaane caqabaad kale ayna haysta waxaa ka mid ah baan odhan karnaa caqabaadka ayna haysta oo malaa jahliga la sii socda albadaawa waxaan odhan karo cadam الtaxadur reer magaalnimo la'aan reer magaalnimadu malaa waa eray sida xunna loo adeegsadee maxaan ku tilmaamaa qiyam xadaariya baynan lahayn ama si kale haddaan u tilmaamo badwiga ninka badowga la yidhaahdo waxyaabaa lagu yaqaana waxa lagu yaqaano waxaa ka mid ah waa waxyaabo aad u cajiib oo badowgu caan ku yahay oo caalamka oo dhan uu kaga gedisan yahay waxyaabaha badowga lagu yaqaano waxaa ka mid ah alfawda wa cadam alinbidaat wa cadam alintibaat ama alxurriya almutlaqa waa dad ku kobca meel aan qaanuun ka jirin meel biduuni qaanuuna bay ku kobcaan markaan leeyahay qaanuun kama jiro maxaan uga jeedaa qaanuunka dadka inuu wada noolaado saamaxa ma leh kayn cidlaabu iska degaa
geelis yaadhigiisu halkaa ku faafsadaa wixii agtiisa soo marana xoole nooga dubuu yidhaahdaa looma soo dhowaado keligii baa halkaa jooga waxaan aad u dareemay waa anigoo xabsi iyo meelo ka baxay baan baadiye tegay hawd wixii ugu horreeya aan dareemay wuxuu noqdaa bal caalamkan aan booliiska lahayn ee qaanuunka lahayn ee meelaad u socotay cidigu caalam dhan oo kullu xorriya mutlaqa waagu markuu beriyo ninku xaggu doona u dhaqaajinaya xaggu doonana wuu u kacaya waa qof ku taracrucay markaasi inuu xorriya mutlaqa haysto oo aan la qaydin waa taqaanin soomaalida oo haddaad tidhaahdo iminka markaynu halkan nimin waxyaabaaynu iska barannay baa jiro aan cidi inugu qasbin laakiin markaanu aragnay dadkan xadaarada le aynu iskala dhaqannay مثلا waxa laga yaabaa warqadda inaad farays ka mariso weliga inaad wadada ku turin aad iska sido qiyam xadaari oo lagu baray inaad waxan meelaha ka nuskagayn waxa laga yaabaa gaariga sigaarka lagu macabo haday ku qoranta inaad weliga ku cabin laakiin markaad baqaaxida Soomaalida tagto waad iska shidaysaa iyada ku qoranta lagu macabo waayo waxaad ogtay inaad u timi fawdawiya uma nidaamka iyo waxa jeclay markuu gaalka u galayo sigaarka cabbi maayo waayo waxa ugu qoran boodha sigaarka lagu macabo qaanuunku ixtiraamaya laakiin markuu adiga ku yimaado konton boodh hadaad ku qorto uu cabaya sababta waxay tahay wuxuu ku ogiyay deena wada tiineen war nagu cashuurin meesha baa laga yaabaa inuu ku yiraahdo haddaad tidhaahdana war laayaxadeena dhigaysa inaan meesha wax lagu cabin idan waa ummad ku taracrucday ama ku kobocday xorriya mutlaqa xorriyada mutlaqa ah waa bi'a fawdawiya waayo bi'ada noocaasi u kacdaa inta badan had iyo goor waa bi'o nolosha ay fududay marka dhan laga eego ay naadirtay al-ustaad maxamed qutba wuxuu yiraahdaa bi'ada caalamul islaamigu inta badan uu ku nool yahay buu yiri waa meel ay naadirtay qofku inuu gaajo u dhinto buu yiri waa meel ay naadirtay buu yiri qofka in baraf dilo iyo qabow waa meel kulayla ah buu yiri qofka aqallu tacaam baa ku filan yani dhulka qabow waa inaad in badan shaqaysaa wax badan cunta laakiin markaad meel kulul joogto cunada in yar baa kaaga filan oo aqallu tacaam baa qofka ku filan waa meel buu leeyahay qofku markaasi inta badan ay isaga barteen intan yarna in la iska heli karo si kastaba lagu helay shahaad lagu heliya mid kale gurigiisa laga soo cunyaa inta yar beerka lagu toosinayna waa in la iska heli karo waa meel uu qofku dareemayo shalay wuu noolaa maantana wuu noolyahay waa mustaqbalka uga sii fikiraya berina waad iska noolaanaysaa waayo berita waxay la tahay shalay siday ahayd unde maadaama shalay baa uu noolaa aan waxaan u khitadayn jirin u fakari jirin nidaam u baahnayn beritana muxuu uga fikirayaa soo sidii uu noqon mayso sida daraadeed waxa la fududay inay caynka noqoto bi'ada noocaas waxa lagu yaqaan cafawiya shadiida ama waxa lagu yaqaan qasr an-nafs waa dad aan u adkaysan karin maamul waqti dheer u baahan hadduu daacadnimo kasta kugu ogi oo wax ku yara dhibaa wax yara wadaano bil marka la wado oranay war waxa ma soo wadaan bil dhanba dadku daba socdo wax la haya may jirto waayo nafas tawiila male khutba baciida male waxaas iyo dhamo ku adagtay ninka Soomaaliga ah waxaan idin tusinayaa maanta waxa la iqaata la sheegay imka haddaan idin wacdiyo oo idin idhaahdo ilaahay dartii yaa u bixinaya jeebka gacanta gelinaysaa wada bixinaysaa haddaynu idhaahno waryaadhan waxa la bixiyo maxaynu bixinaa haddaad tidhaahdaan aan idhaahdo 500 maanta dhiga waxa laga yaabaa in badan oo Soomaaliyeed inay 500 dhigto laakiin haddaan idhaahdo 500 sanad baan idinku qaybinaya bishii 40 karawnaad soo bixinaysaa ama 20 karawne imisa laazimaysa aad u malaynaysaa inay bishii 20 karawna bixiso bishan 20 kan inaga wada bixiya bishan ku soo ridaysaa ta dambe dadkii 600 ba ku soo ridaya ta ku xigta 300 oo qof intaanay sanad gaadhin u baad arkaysaa in iyada ay kugu soo hareen 10 qof dadkii markii hore kunka waayo nafas tawiila male khutba baciidati al-amada ma qaadi karo waa umma badawinimo ku taracrucday waa sifa reer baadiyenimadu leeday oo ah inuu fawdawi iskaga socdo arrintiisu ay ahaato uun maxay kula tahay hadda waxaana la fuliyo wixii aan hadda la fulinayna inaanay qiimo badan lahayn in laga sii fakaro waxaan leenahay waa ummad noocaasi u kobocday ama afkaarta noocaasi haysata badawnimadu waxay kaloo leeday haddaynu nidhi waxay leedahay fawda iyo cadam al-indibaat waxay kaloo leedahay al-unf وسرعة اتخاذ القرار بيلاده ربادينimadu waxay kaloo leeday ama badaawada sheegaya ونولل qalqalafsaniya aday ku dhisan nolol qalqalafsanaan iyo aday ku dhisan adaygu dhanna faa'iido kaleeyay dhanna xumu kaleeyay booskiisa markuu dhaco faa'iido leeyay markuu qofku jihaatamay markuu caynkay adaygiisu faa'iido leeyay
laakiin طabciga iyo dhaqanka iyo akhlaaqiyadkiisa iyo waxa kan hadday qofka qallafsanaadaan waa yaro dhibaato. badownimada waxaa ka mid ah cawaatiftu dadku markay kacaanuun ayuunbaa qaraarka la gaadhaa. waxaas baa la sheegay saas baa la yidhi macaynkaasa maxaynu yaallaa imika haddaaba go-aan laga gaadhaya. lagama yaabo in daraasa la sameeyo, lagama yaabo in waxaan la baadho, lagama yaabo in wakti dheer la qaato. hadda ayaa la isku dayayaa wax walba in go-aan rasmiyoo dhaqso ah laga gaadho. weliba waxaa laga yaabaa inta markaa wada joogtaan inay go-aanka gaadho magaca dadkay matalayaan oo dhanna ku qaataan. iminka reerahan waxaa laga yaabaa inu idhaha reer bacaynkaas ka soo baxday reer way adagtay reer intuu ballan qabsado inuu idhaho maalintaasaa inoo shiro wax aqoontiisa iyo dadkiisa iyo waxa uu isugu yeedho inuunbaa meel iska helisino intay wax gaadha unbay magaca reerkun ku cilaaminaysaa unoo reerkuna dhib badan kama qabe uu iska aqbalaya. waxaa laga yaabaa inta halkan joogtay in yaroo isku reere hadday maanta intay halkan wax ku qabato ay dabeetana soo iclaamiso in dadkuna ay yidhahdaan reer hebel baa shiro caynkaasay gaadheen. waayo waa qaraaraadkeen oo dhan baa waxay iskaga salaysan yihiin surca in loo qaato. ummadda badwiga ah waxay kaloo caan ku tahy tacasub alqabali ayay aada caan ugu tahay. tacasubka qabaliga ahi qabiilku society-ga qabiilka u noole waa qaab ka mida nudumka ijtimaaciga ee loo noolaado asliyan, laakiin wuxuu leeyahay boos iyo meel ku cuntanta. waayo waa heer ka mida baynu odhan karnaa heerarka dadku uu noolaado. waayo dadka badwiga ahi ninka baadiye jooga ee ahlu baadiye qabiil ka tirsani cashiiro ama qabiilo ama reer buu fardi ka mida yihi. reerkaasuu hiil iyo hooba siya ula taagan yihi. waxa reerkaas korkooda ana waa saaran yahy, waxa uu xuquuq leeyahna wuu leeyahy. marka loo eego reerkan muxuu ugu tiirsan yahy, marka loo eego waxay yidhaahdaan asraac min ajli albaqaagay sheegaan inuu noolaado reerku waa inu wada saxansadaa, la wada guuraa, wax laysku taraa. haddii xooluhu reerkan saasuu uga tirsan yahy. wuxuu kaloo uga tirsan yahy reerka wax allaaliya waxa ku soo kordhee duulimaad iyo weerar iyo wax kastaba waa inuu ka tirsanaadaa. ninka reer baadiye mambuudka laga dhigo ee aan qabiiladu markaasi ay fitnaysaa wuxuu ahaan jiray bay dhahaan fii cusuuri iljaahiliya luula qof damigiisu mustabaax yahay, ciddii doonta ay dili karto, ciddii doonta ay xoolihiisa dhici karto. waayo reer tabaniye qadiyadiisu ma jiro. markaa ninkani waa iska de waa ku yidhi waynan gumeed iyo waa gun iyo waxaan waa dad ama yaraaday ama qadiyadooda iyo xuquuqdooda cid tabaniday waayey, dabeetana intii kale ay markaasi dul mareen oo ay cagta mariyeen. waxaa jiri jirtay markaynu eegno dadkaasi qaabkay u noolaan jireen. maalan jaahiliyadii carbeed oo aan is idhaahdo mararka qaarkood qaab qabiilkood iyo qaab qabiilkeennu male aad bu isugu dhowaa. siday qaraaraadka sida degdega ugu gaadhi jireen, siday casabiyadooda iyo qabiilkooda u kacsanaa. mid ka mida baa gebiyey markaasuu wuxuu leeyahay qaatili lqawma ya khusaacu walaa yadkhilkum min qitaalihim fashalu alqawmu amhaalakum lahum shicrun fi ra'si laa yantashiruuna in qutiluu buu leeyay. yani waxa uu wax ku baysgaraynayaaba waariyaba timay leeyihin hadday dhintaan feedhan maayaane idina halumuu buu leeyay dagaalama. waa qof waliba timuu leeya hadduu dhinto timu waa ka dhacayaanuune dagaalka haba yaraatee ha u gaagaabsanina buu leeya hore u gala. waxaa laga yaabaaba inay u arki jireen inuu reerku dagaal galaa oo wax iska dhaciyaa inay tahay meelaha reerku uu magaca ku helo. reer weligii iska miskiinaan weligiiba dagaal gelin oo dadka iska nabadgeliyo inaan ahayn reer magacba soo heli kara. waxaynu garan karnaa noocay u noolaayeen. mid ka midabaa faras uu leeyahay oo yar buu gabay u tirinaya. markaasuu muxuu leeyahay ida almuhratu shaqraa'u adrak, yani gabay dheer intu soo tiriyo wuxuu leeyahay baha faraskayga yari ee fiicani hadduu gaadho dhabarkiisu mid la fuuli karo wax la fuulow noqdo fashaba ilaahu alxarba bayna alqabaa'ili buu leeyahy. ilaw reeraa dagaalka dhexdiid buu yidhi maalintii taasi qaan gaadho. wuxuu rajaynayaa in dagaal la dhacaan mar haddii bahashiisa yare ay qaan gaadho. waawqad naaran baynahum, yani wuxuu tilmaamaya ilaahu dab ka shid dhexdooda aan damin oo xoog u ifa. casabiyadooda qabiilku waxay taagnayd kuwii uu tilmaamayey shaacirkoodu in ana lam ansur akhi wahuwa ظaalimun cala alqawmi lam ansur akhi xiina yudlamu. wuxuu lahaa walaalkay buu yidhi haddaanan u hiilin marka uu wax dulminayo
ma berrita marka la dulminaya wax ka dhicinayaa buu leeyahy yani in adeerkay markuu wax dulminaya buu leeyahy haddaan dulmiga ugu hiilin waayo ma berri marka wixiisa la dhacaaban haddaa wax hiilinaya buu leeyahy maanta wayna raaca waa kii kale mid kale lahaa wamaa ana ilaa min ghuzayin gawat yani anu miyaan ka tirsanin reer hebel mooyaane buu lahaa reer hebel hadduu lumana waan la lumi un hadday jannada galaanna waan la galin weeyaan hadday naarta galaanna waan la geli doonaa waxaad ka garan kartaa ashcaarta jaahiliga markaad dib ugu noqoto shaacir jaahiliyabaa reerkoodu canaananaya reer kalena wuu ammaanaya reerka kale muxuu ku ammaanaya reerkooda se muxuu ku caayaya ammaanta reerka kale uu siinaya waxay tahay nin iyaga ka mid oo qaylinaya yimo hayaayay leh dabeetana may odhan buu yidhi war maxaad ka qaylinaysaa seeftay la dhinac carareen buu leeyahy idinkuna marka tolkiin soo qayliyaan baa odhanaysaan buu yidhi maxaa dhacay wuxuu ka xanaaqsanyay maxaa dhacayda in la isweydiiyo marka wuxuu leeyahy marka ay soo qayliyaan laa yasaluuna akhaahum xiina yandabuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaanu buu lahaa ma weydiiyaan buu yidhi reer hebel markuu walaalkood dagaalka ugu yeedho ma yidhaahdaan war waxaad sheegaysa maxaa dhacaya see wax yihiine way dhinac ordaan idinkuna tolkiin baa qaylinaya waa iska aamusantiina waa joogtaan yacni waxay ahaayeen bulshadu badaawada loo yaqaano saddexdaas sifaynu odhan karnaa bay leeyihin inay ummad nidaam aan ogolayn yihiin oo nidaamka aada u neceb aan u hoggaansanayn waxooduna fawdo iskaga salaysan yihin inay yihiin bulsho had iyo goor lagu yaqaano qaraaraadkoodu si degdega inuu u go'o inay yihiin dad lagu yaqaano walaa acmaa inay siiyaan qabiilka ama casabiyada waa caqaba shacbiya idan waxayn leenahay quwa caalamiya way jirtaa oo waddankeenna iyo dadkeenna iyo ummaddeenna khalkhal gelinaysa waxaa kaloo jira baynu leenahay jahli shacabkeenna haysta waxaa kaloo jira baynu leenahay xadaaradeenna xadaaro badwiya oo reer baadinnimo ku salaysan intaa waxaa raacdoo kale baynu leenahay min xayثu alqiyaada sayطarat alcilmaaniyiina fi اlxukm dad cilmaaniyiina malaa cilmiba maahe waa caalamaaniyiin nisba ila alcaalam dad caalamaaniyiina caalamaanigu waa maxay waa dad diidan inay nolosha u hogaamiyaan ilaahay yacni tawajuha siyaasi alislaami waxa weeyaan in dadka ilaahay loo hogaamiyo waa tacbiid اlbashari lilahi subxaana wa tacaala bini aadamkao dhan in alle looga dhigo alle loo hogaamiyo weeyaan siyaasa alislaamiya wax kale sheegi mayso laakiin kooxdani waa koox rabta inay taa ka reebto oo ay yidhaahdaan cuquushayada iyo afkaartayadaanu ku maamulayna waa secularismkaynu maqli jirnay reer galbeedka caanka ku ahaa fi'adaa yar oo isticmaarku uu rabaystay oo isagu uu tababaray oo aada wax u baray oo uu baray in ay bulshada isaga gadaashi hogaamiyaan ayaa isagu markuu tegay hoggaankii qabtay yacni waxaan odhan karaa isticmaarku intuu albaabka ka baxay ayuunbu daaqadda ka soo galay khalas waxa isgediyey wuxuunbuu ahaa ninkii meesha fadhiyey erayada aadka u cajiibka le aan dib u xasuusta waxaa ka mid ah lixdanadii ayaa waxaa la yidhahdaa nin soomaaliyeed oo kristan ah yani fi ayaroo soomaaliya jirto cadan iyo meelahan intay baadarigii gashay oo ingiriisku gaaleeyey oo markaa xoogaa uu soo baray oo christianity qaadatay ayaa baarlamaanka isu soo sharaxay soomaalidu markaasi waxaa la weydiiyey ninkan baarlamaanka saad u helaysaa baa la yidhi baarlamanka aduu nin kristanaaba tahe soomaalidu say kuu dooranayaan wuxuu yidhi tolkay diin taa ka yaro qiimo badan bay rumaysan yihin yani kristan iyo muslim maaha wax lagu kala dooranaya lagu kala saaraya arrin kalea jirta buu yidhi nin reer hebela baan ahay buu yidhi oo tolkayna reer hebel bay rumaysan yihin yani mashkilad maaha inaan kristan ahay inaan muslim ahay kaan ahay arrintii waxa weeyaan inaan reer hebel ahay mar haddaan reer hebel ahayna wuu imanaya ficlanna wuu yimi waxaan leenahay qadiyaddu maxay ku salaysanayd dad cilmaaniyiin aan mabda'a aynu rabnay in laynagu hogaamiyo aynugu hogaaminayn baa caalam alislaam oo dhan xukumay waa iskaga mid kuwii magaca kristanka la baxay iyo kuwii magaca muslimka sitay waayo isku manhaj bay wateen isku qadiyad bay siteen isku mabda' bay ahaayeen isku diiwaan bay xambaarsanaayeen waxaaba laga yaabaa kii magaca kristanka watay isagu inuu dee caddaystay oo la garanayo oo lalahaa waa gaal hebel inkastoo la daba socday laakiin kan muslimna waa loo haystay waxaana isagaa dadka ku waday waxaan leenahay taasina waa caqabo kale oo meesha taalla waxa meesha yaal baynu markaa leenahay ummadda aynu rabno inaynu hogaamino oo aynu ku hogaamino islaamnimo caqabaadkaas baa haysta baynu leenahay caqabaddaa caalamigaah iyo taa shacbigaah taa shacbiga ama daakhiliga oo aynu ku sheegi karna inay tahay ummad jahli hayo
aynu ku sheegi karna inay tahay ummad aan xadaara lahayn ee ahlalbadwi ah aynu ku sheegi karna inay yihiin ummad ay u taliyaan dad cilmaaniyiini intaasoo mashkilo ayaa isugu biiray ummadda intaasoo mashkilo isugu biirtay sidee baynu u noolayn karnaa markaasi ama se u soo saari karnaa maxay tahay macaalim asiyaasa alislaamiya maxay tahay macaalimta aynu u baahanay inaynu ka intilaaqno oo ka bilowno si aynu ugu soo celinno islaamka dadkii si aynu manasati alxukm ama heerka maamul u keenno dad islaamiya si aynu uga dhigno nidaamka nidaam islaamiya si aynu u helno dad fiican oo muslimiina dhowr arrimoodba waa laabud markaa inaynu ka fakerno arrimaha laabudkaa inaynu ka fakerno waxaa ka mida baynu leenahay arrinta ku saabsan mafhuumka siyaasiga islaamiga inuu caddaado inuu waadix noqdo aada u cadiye siyaasadda islaamigii mafhuum caqiide ah bay ka bilaabantaa waxay ka bilaabantaa baynu odhan karnaa mawduuc ay culamada muslimiinta u yaqaaniin alwalaa'u walbaraa alwalaa walbaraa waa mafhuum caqadiya oo siyaasiya baan odhan karaa maxaan uga jeedaa qofka muslimka ah dadka badh waa shacab badhna waa qaada waa hogaamiye hogaamiye waa qof kastoo dadka xil u haya ka masaajidka xukuma ka jaaliyadda xukuma ka ururka yar xukuma ka waa wada hogaamiye waa dad hoggaan haya oo isku dayaya inay ummad hogaamiyaan dadna waa dad la hogaaminayo iyo qaabka wax loo hogaaminayo waa saddexdaa shay baynu u baahanay inaynu si fiican u ogaano qofka maxaa looga baahan yahay maxay tahay siyaasadda aynu ku tawjiihinayno qofka muslimka inuu yeesho waxa weeyaan inaynu weydiino su-aal ah qof kastoo muslim uu isweydiiyo man ana kumaan ahay anigu mayna nebi aadan baan ahay oo humanitarian baan ahay oo dadka waxaan u ilaalinayaa xuquuqul bini aadamka calaa asaasi hada almunطalaq miyaan ka soconaya anigu ma nin madow baan ahay oo xuquuqda dadka madow baan u dagaalamaya oo nin afrika ka yimo caynkana baan hoo dabeetana madowgaan raalli gelinaya anigu ma nin soomaaliya baan ahay oo ummadda soomaaliyeed baan hagaajinaya oo qawmi baan ahoo qawmiyaddaasaan ilaalinaya anigu ma nin qabiil ka dhashay baan ahay oo nin reer hebela baan ahay oo reer hebel iyo dantoodaan ilaalinaya oo iyaga ayaan wadaya manana kumaan ahay waa inaynu barraa qofka muslimkii kuu yahay markaas baa caddaanaysa cidda uu u hiilinayo iyo cidda uu ka hiilinayo cidda uu raacayo iyo cidda aanu raacaynin hiilka iyo raacistu xoog iyo xooloo qura la bixiyo maaha xataa waa naftaadu wararka qaar baa markaad heshaa naftaadu ay ku raaxaysanaysaa wararka qaar baa naftaadu markay hesho aad u nacaysa aad ka barooranaysaa kumaan ahay waa inaynu weydiinaa qofka muslimka ah waa inaynu sheegnaa qofka muslimkii kuu yahay waxaan leenahay qofka muslimka ahi waa qof rumaysan mabda'a universalism nationalism maaha waa universalism wuxuu rumaysan yahay waa mabda' caalamiya buu haystaa kuma xidhna midab kuma xidhna qowmiyad kuma xidhna gobol kuma xidhna dhul wuxuu ku xidhan yahay ideology caqiido mabda' wuxuu rumaysan yahay buu ku xidhan yahay waa wax qof waliba dooran kara buu ku xidhan yahay inta kale ma dooran kartid ilaahay baa ina aadam kaa dhigay ilaahay baa ama madow ama caddaan kaa dhigay ilaahay baa ama soomaali ama carab kaa dhigay ilaahay baa reer hebel ama reer hebel kaa dhigay doorashaba kuma lihid waxaan leenahay qofka mu'minkii waa inuu ahaadaa waxuu dooran karo waxuu dooran kara buu yihi dabeetana wuxuu yahay qof muslima qof muslima markuu yahay waxa u caddaanaysa yuu u hiilinayaa yuuse ka hiilinayaa siyaasaadkiisu xaggay u jeedaa asiyaasa alcaalamiya dunidu way is haysaa meel kasta waa la ysku hayaa soomaali qura maaha meel kasta waa la ysku hayaa caalamka mujtamac duwali wax la yidhaahda baa jira mujtamaca duwaligii qadaayaadkaasi caalamka ka socda mawaaqif buu ka leeyahy almujtamac almuslimi alcaalami mawaaqiftu ka leeyahy waa maxay
مواقفته كي لنا وسياسة دي حاجة وصعته. إذا معالم السياسة الإسلامية وحويا بين وجهرين يفهمنه من أنا أقف كونه قرطه مركز بقرنا يعيد أوهي لنا يعيد أنوهي لنا قفك مسلم كا إلهي بأوح القرآن كيس كلي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين في سورة المائدة. إلهي بأوحلي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إلهي وحلي وروحا إدين وليه وهيليه هو بيد كمضا وقرقار كينيا أرنتينيا هيل كينيا محبدينيا كالقعل كينا بالي الله سبحانه وتعالى. إذن قضايات كاغو وقضايا الصراع بين الحق والباطل كلما حق لشيغو فسياستك معهم وقضايا مبدئية ورسوله إلهي رسولك ساد هيليه هو بلدنا اعتاقنت إيوه والذين آمنوا كوا إيمانك لغهلي وليبا كوا إيمانك لغهلي با أصناف لغا سيدغي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكوا صفات كاله صلاة أوغا يا الزكاة بحنا يعني مسلم حق كوا أويا إلهي وحكوت المامية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أفرصوا حزبك مسلم قفك مسلم كوا حزبك حزب شيوعي أما من ديمقراطية أما من هرصعدة أما من دمصار حزبك كتر سنتي إلهي بوحلي وحاده لنساء أقرقار سواء الله يا رسول كيسا يا كوا مؤمنين تا انت أصبح انت إلهي حزب قرس كقد جيبا إلهي وحلي فإن حزب الله هم الغالبون إلهي حزب كيسا كوا غالب كاه يا أيها الذين آمنوا با إلهي مركالي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا واركوا إيمانك لغا هليو با إلهي لي هكي لننا كوا أنت لا سارانين أما كوا دينتين كدغتay dheeldheelkiiyo jees-jeeskiiyo waxa lagu ciyaaro ee ahlu kitaabka kamida iyo gaaladii kale idinka horeysayba wal kufaar awliyaha ka dhiganina balay kooxaha ha u hiilinina wattaqullaha in kuntum mu'miniin waxilana marka qofka muslimkii su'aashiisa koowaad ama siyaasadeena koowaad waxa weeyaan inaynu cadayno dadka muslimiinta iyay u hiilinayaan yeeyeen xagay ka tirsan yihiin khalalka ka ku jira waxana aad u xasuustaa من هبين دويد بوحة محاضرة جيدية أحمد أبو اللبن عالم كمسلم كي حقا دقن مركزو حسون نقلية لبا قول وآدو غريبة وجرايد كعالم كقريين قول ككواد حويان باكستان أي وحا كدعي دورشو ضدك كقيب قال وحا كمدا أحزاب مسلمين كما هاد لينا مسألة داين لقلا ما بنانتاي ما بنانا مسألة سواء مسألة كله لكن waxaan ku tilmaamaya qaba inay banaan tahay hadana bal aqliyadkoodu siday u fakarayeen doorasho la sameeyay kuwii islaamiyiinta ahaa ee markaa iyagu ku dhawaaqayay islaam baan u gargaaraynaa dhanbay mareen الجماعة الإسلامية iyo kuwaas ay hogaaminayaan kuwii u dhawaaqayay النظام الديمقراطية iyo nidaamada dimuqraasiga ku salaysan reer galbeedka iyo waxaas baan u gargaaraynaa ku dhawaaqayna dhanbay mareen qolo nin markaa wadadnimo lagu tuhmayay soo wadaan iyo mabdiisi iyo mashruucaadkiisi qolana waxay soo wadaan gabadh yar oo reer galbeeda oo Mareykan iyo meelaha ka timi oo afka soo casaysatay oo dabeetana wadayana mabdaas galbeedka ka yimi bulshadii waxa la weydiiyay istiftaag waa maxay bulshada waxa la weydiinaya markhaataan idin weydiinay kaayaga xaq u leh inuu dadka xukumaa bulshadii la weydiinaya sanadooq iqtiraac macna kale ma leh waa dad bulshada inuu xakam ka dhiganay yiri oo ina kala xukumaya maxayna ku kala xukumaya war kaayaga xaq u leh bay leeyeen inuu xukunno wax bulshadu marka waxay leedahay dacidaas xaq u leh ugu ridaysa fawdkaraad ku ridaysa macnihiisu waxa weeyaan
حق له إن تحكمته وشهادة شهادتنا الإسلام كميل بك شكتاد خطرة شهادة الزور مرخات بينا له حزبي أنا كوكتين الضد خيامين أيو قيامها مركز يقول ردو مركز يقول ردو وننكي ما شافوله وحدبه آخر قيامك والله قبصنيات كمتي وحدي بيكلجي معها ويواتقاني وانا اللي قراني حقه وحوضه ادانا عدك كنسيي معناه هدي وحويان هذاك الرالي هاي ضدك كله ظلميه وصيته نسي قيامه الهي ادي وحكا ويديني وحو غبين كاس يودمي وهو موقف كاغي سياسي هيا تستاكتي قفك مسلمكي موقف سياسي عد وينو يشاء شهاده وما يكتم الى القران كوحنا قلت المام يقفك شهاده قريه دنبي قولي سيده وحنتي قولة الزور با قرآن أي حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور با الله ينوت المامية أنتوا وحكي دقي كدقي النبي يسقط شيفا إنه ساقعي يسقط وقد دقي شهادة الزور استفتاء عندك لو يديني أوامر خاطي وضد لي ورحكم نون نقض وركايا قرله يا مدنين ضدك حكمه كايا مبدأ في عن كايا عدالة وضع ضدك لو يديني استفتاء ويا هاي واحد المجتمع مسلم باكستان مجتمع مسلمة صحيح كما واحد قولي ستي بنازير بوتو وحنا قفصتي باكستان maxay ugu leysatay markhaatibay muslimiintii u fureen inay iyadu fiicantay hada bas dadka u furaya kamida al-ustaad Khaliil al-Hamidi rahimahullah ayaa markaasi jariidatul mukhtaar buu ku qoray waxa la yiri war maxaa u khasaarteen foodkii soo idinki dadka islaamiyiinta ee caynkana kitaab iyo sunna ku dhawaaqay islaam sheegayay ummadda Pakistan ay ummad muslimiin ahayd soo idinki kalsoonida qabay haddii ay doorasho dhacdo oo naag iyo la isdhinac dhigo naag mabda gaaleed wadaya la isdhinac dhigo dad muslimiina mabda islaamiya wada in muslimiinta la dooranayo soo idinki sheegay maxaa u khasaarteen sidoo waxyaabaha aanu khasaarnay ugu waaweynaa waxa kamid ah buu yiri jamaacatu tabliiq ba banaaziir buu ugu riday buu yiri انتبهوا إلى هذه القضية جماعة التبليغ ما تهمي وضد مسلمين وضد ربين إسلام كوها الجمان وضد دون يين نفط وظهران جولة أنت أسيو سميانا واركتين ودى سنة أي في سبيل الله وبحيا أنتوا سووا ريقو وعرق وردن صامر الداعية وحصاش يقول ضدك إسلام كوير كم قف باركتين خمر عبية وخمر غيتشوشية إمي ساركتين سوق مريو الصلاة دبر إم سوما درك تقف يدين تكون صدره حسنات كده اسكما هينو يعني مركز نقطة تلماميو وما تشهد الدرس عن دريو لكن ما حنو تشهد مسلمكو وجهدي سياسي جينا أنا وعضين مفهوم الولاء والبراء بيهيدين وقفكو تاجين يهي ومفهوم عقيدي يا مضن إن أدوه لسه يا مضن سينت كه لسه وحرجني محاضرة كصاب سنين ولا كان ومالبريت قال دونه جزاه الله عنا خيرا si fiican inoogu ballaarin doono laakiin anigu wuxuu baan rabaa inaan ka hadlo jaanibkeeda siyaasiga oo way walaagu jawaanib badan yahay laakiin waxaan leenahay mafhuumka siyaasiga islaamiga wuxuu ku salaysan yahay yaa mudan in loo heeliyo jamaacatu tabliiq bi malaayinha waxay ugu riday bay leeyeen maxay banaaziir buuto sababtu waa maxay mafhuum alwalaa'i walbaraaba fi uqul almuslimin wali an waadix noqon hadaynu rabno mujtamaca kan inaynu islaam ku hagno haddaynu rabno mustaqbal islaamiya inaynu soo saarno waa inaynu caddaynaa mafaahiimta waaweyn ee islaamiga ee u baahan inay caddaato sida daraaddeed tusaalaha labaad ee uu soo qaatay axmed abulaban xafidahullah wuxuu leeyahay turkiya ayaa iyana sanaaduqdii foodka la yimi xisbi rafaah oo uu hogaaminayo najmudiin arbakan oo بروفيسور معروف في عالم الغرب بو بروفيسور معروف ku yahay fannigiisa caalimkaasi muslimkii uu hogaaminayo oo ku dhawaaqaya al-khilaafa ar-rashida baan umada ku celinayna waxaanu soo celinayna khilaafadii dadka muslimiinta ka luntay iyo ahzaabtii cilmaaniyiinta ee lahaa waxaanu rabnaa an-nudam al-gharbiyya reer galbeedka ayaa la yiri sanaaduq al-fawt baa la dhigayaa waa sanaaduq al-ikhtiraac oo kaasoo dadka la weydiiyay سؤاشي باتمي يا حق لينو ماشا مامولو دادكي كوري دي فودتك وحا كمدها جماعة كمدها جماعات كإسلامية وتيار النور السياه تيار كسي وكوح كمدها كوحا إسلامية عالم وينو مسلم يكدم بيان عالم كي وقت تاتور كي النولا
وعالم runtii diinta islaamiga aad ugu soo halgamay wax weyn u soo qabtay waqtigii culimada la laayay ee la cadaadiyay ee inta la soo qabtay Turkiga oo dhan waxay caalim lahayd inta meel la isugu keenay buu madaxa ka wada gooyay mar qura in yar ba ka firdhatay oo sheekh islaamkii Turkiga markaas ay kamid yihiin Mustafa Sabri ninkii la oran jiray Masar degay Falastiin iyo Masar iyo meelaha waxoogaa yar oo firdhaday mooyaane waxay Turkiga caalim lahayd intuu qabtay Kamal Atatürk buu madaxa ka jaray dabeetana siyaasadiisii cilmaaniga ahayd buu keenay waa kii wadankii khilaafadii bedelay jamhuuriyadu bedelay nidaamkii oo dhan bedelay haluma dabeetana caalimka kani wuxuu isku dayay dadka caqiidadii iyo waxoodii iyo mabaadi'dii ba ka fasaaday inuu islaamka ku celiyo jamaaca saaxadii siyaasiga ahaydna way xidhantay marka juhuudiisu umay badnayn fi saaxa siyaasiya jamaaca islaamiya jirto isaga ku taasurtay oo ilaa hadda nool waa jamaaca islaamiya oo degan oo islaamka wada waxa la leeyahay markii sanaaduuq iqtiraac la yimi gartay ninka leh waxaan ima banaanay iskaga tagay waxba ku ridin kaasi bal meel isagoo iska joogo waa qoladii iyagu ku socotay sanaaduuq iqtiraac inay wax ku ridayso ayaa ku riday markaasay ugu rideenayo Sulaymaan Dimriyal ninkan meesha haysta cilmaaniga waa cilmaaniyada caalam islaami huwa weyn macruufka abu kamidi ayaa ugu rideen meesha marka maxaa yaala waxa yaala mafhuum alwalaa walbaraa baan cadayn waxaan meesha oolin asiyaasa islaamiya mafhuumkeedu waa maxay waa tanshi'at almuslim almunfasil an almushrikiin la helo muslim shucuuriyan caqiidiyan mabda'iyan munfasil ka baxsan gaalka ka baxsan ولذلك بقى النبي يقول أنا بريء من أقام بين الظهراني المشركين أنا بريء بقى كاهي من النبي يقول المشركين تدحدوا ده نك الدجا يعني مفاصلة ده وحلا جارتيني حتى هدي جاري كرتال الهجرة إني جاردو أو قفك مسلم كبري هذا إلهي بقول لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا لا بد من زيالة بين المشركين والكفر قال دي غير مكاه هيد بقى إلهي بقول لو تزيلوا محي لو تزيلوا نبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بسودوا شيء وساع مرتجا وتلود دي صلح الحديبية مسلمين مستضعفين كشري مكة وأنا يقرنا إن ضد كمسلمين تي دبتنا إلى وحلي هداي كبح لهاين هداي كلاسيب من لهاين قال هذا يا مسلمكم إلى وحلي سبحانه وتعالى لعذبنا الذين كفروا وأنه عذاب لهم بكوي قال لكن وحال قد حفتشين كري لا يكوي كلا كده حجرة وحين وبا هني قفك مسلم كي قضايات كي سينو فهمه وحن لنا معالم السياسة الإسلامية waxay ku salaysantahay mafhuum alwalaa walbaraa wuxuu ku salaysan yuu qofka muslimkii u hiilinaya waa inuu noqdaa inuu u hiilinayo qof kasta oo muslima fi anxaa alcaalam meeshii la doonaba lagu dhibayo shiishaan bosnia meeshuu doonaha joogo fi Soomaal ayama qof muslim oo mabda islaamiya rumaysan oo la ilaahiya rasuulkiisa aanu gargaaraya ayuu hiilinaya idan waa garateen المعالم السياسية الأولى نقطة دي كواد وأهمن أنا مسلم هوية ديو أيضا تتيجيو وحا أنسيتايا إيه علامات ضاحي باصبار كان سيتا أما الجنسية ده أنسيتا ما ها الصومالي ما ها قومي ما ها أفريكان ما ها وحاسودا ما هو مسلم إذن ماشى مسلم يعد كلا يسكوها يستانا مع المسلمين ماشى دور شيء إسلامي غير كذا يشوغان أنا مع المسلمين waxaana hay jaanibka islaamiga ku taagan waayo dadka saalixiintii xagga hore ma tagi karaan maxaa ka dhigay dadka saalixiintii inay dadka hogaamiyaan baa ugu fiican ummadii muslimiinta hore waxa hogaaminayay dadkii muslimka ugu fadli badna Abi Bakr Umar rag daba dhiganeen baa hogaaminayay laakiin waxa meesha keenay muxuu ahaa mafhuumkay rumaysnaayeen dadkii muslimiinta waxay leenahay marka السياسة العالمية كلا وحلا جاية بمفاهيم حتى إسلامي حد إن يجارسي سنتي مشرك يا أهل الكتاب كلا دوي سنة وفي سورة الروم وحتى قارن قصة يكوس يدرتي إن بيرشيا يا إستيلين محي رومانسك دبي تناوى أبي بكر كو خماربا ما وكو رهني كوسميي إنك لو قال الرهن كو ضدكتين قال هذا صابت النساء قال هذا صابت النساء وده ده يلا ما قالوا لكن لما ده قال قال marka ahlu kitaab sheeganayna xagga diinta u dhawaayeen qolana dabka caabudi jireen mushrikiintii waxay raacsiisayeen kuwa dabka caabudi jiray Abi Bakr muslim rasmi ma ayaa wuxuu raacsiisay hatta kuwa ka soo yara dhadhaw maxay ahlu kitaabka marka Ilaahay Quraan soo dajiyay uu leeyahay ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa min ba'd ghalabihim sayaghlabun waxaan leenay Ilaahay wuxuu leeyahay ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin manana yaanu hiilinaya Ilaahay baa wuxuu ku leeyahay ittaqullaha وكونوا مع الصادقين وأرى لك عبصدة الراعة
كوا رنت شيء الصادقين مع الله مع أنفسهم مع المجتمع في كل شيء كوا الصادقين كوا الراعب إلى إله سبحانه وتعالى وحد كجران كرتا مركز ومواقف تيكل تاجنايين منافقين إيا أنصار تبات جران دوتا منافقين waxay u hiilinayeen yahuudi iyo nasaara iyo baliya baas bay u hiilinayeen laakiin ansaartii markay qadiyadu isa soo gaadhay muslim iyo xaliifkiisii sacd ibn mucaad rahimahullah wa radiyallahu anhu markii la yidhi reer banu qurayda maxaad ku xukumi reer banu qurayda waxay sameeyeen khiyaana cudma dadkii muslimiintii bay dagaalkii kaga baxeen dhabarjamin bay ku sameeyeen ciidamadii kale wixii bay soo raaceen لكن مركو موقف يمي إسلامي غير إسلامي غير بنو قريظة وحي حلفاء وضاهايا سعد بن معاذ قبيل كيسي حليف وضاهايا هشيس كاشامبور بالله اسكوها واقي هوري وحلا اسكو ودا الدفاع إسلام كان يمو قبيل كان هو إسلامي كان يهودي نمدي سيما كسيهاري مركي دنبا قولاد قبيل كانوا إسلامي يهودي waxay ku raacday xaqii xilfiga iyo siyaasadda inay muslimiinta taageerto qolada muslimiinta ay raacday laakiin niman mushrikiin iyo munaafiqiin iyo waxba isu tagayo yahuud siday u gilgilayeen kolba wax ugu akhrinayeen bay safkii muslimka ka soo gooyeen oo ay yiraahdeen ahzaab ba soo ururtay caalamka oo dhan ba markaa muslimka isugu tagay way caalamkii waaga joogay de wuxuu ka koobnaa maxay quraysh oo markaa qiyaadadii weyneyd lahayd bani ghatafan iyo wixii daba socday يهودية waxay caga ku wateen waa qaswati al-ahzaab ka siirada ku maqashaan ahzaab oo dhan ba isu tagtay waxa la isugu tagayeen muslimka la dabar gooyo dabeetana waa tii cunan qabad bil madiina lagu wareegsana qaswati al-khandaq waa tay dhacaysay waqtigaasi oo nabigu kula heshiiyay qoladan inaanay dabar jabin ku sameeynin reer banu qurayda oo madiina in la wada difaacdo ayaa waaxid yahuudiya oo xiyay ibn akhtab iyo waxba intay u soo galeen u soo dusayo barnaamijkii baabiyay يهودي waxay aqoonshay intay ballankii dumisay inay muslimiinta dhabar jabin ku sameeyso ilaahay baa jabiyay ahzaabtii markay jabiyeen muslimiintu isiraahdeen fadhiistana waxya soo dagay nabiga kaleey salaatu wasalaam malaa'iktu la leeyay hubkii maanan dhiginayna keeno reer banu qurayda lagu soo duulay reer banu qurayda duulimaadkoodii markuu yimay muddo la hayayna in xisaar bal waa la goodoomiyay goodoon dabadeedna waxay aqbaleen xakam waxay yiraahdeen xisaarkana na laga qaado waana nu isdhiibayna لكن هنا حكومة بيدها سعد بن معاذ هنا حكومة سعد بن معاذ وانك يسكو قاشامبورتا هينا قبيل كلا وضيقي سيدة قبيل كوردن وذات وضيقي سكو وضعها وعاقل كرارك waxay ka rajaynayaan daaqalka mar hadii xilfi wadaag hore badan la lahaa waayo waxay ogyihiin mawaaqif hore uu sameeyay Abdullah ibn Ubay igi munaafiq aha oo isagu xulafadiisi waa kii nabiga sidoo nafta isugu keenay ka sii daayay dabeetana waxay sidaahdeen deekana Abdullah ba kooxiisi sii daayay ninkana wuu sii dayn سعد بن معاذ لكن وداوعه ومساجد كياله وكدو عيسانيا إلهي وهيدلين شهاده إلهي ويديس إنه إلهي شهادك وأرزاقه لكن وحلا إلهي وهدنا أنا نفتو يقبحي أنت غير بنو قريضة إيش يدو كدوكسن قضية غير بنو قريضة ماشي كل ما تانا نوغان هرتدي إلهي وهيدلين بكدو عيسانيا إيانا وحي سير هذا دينك باسكو كوحة هيدين سعد بن معاذ هنا حكومة بيلاده نبي يقول حلوان وقالي سعد بن معاذ بايدن حكومة إسديبه ويسديبه سعد بالله يرى طبعا بالله سوق هذا ولا كان وحا لغو كان بقى ليدي النبي جاي مسلمين تا يا كوحدان وحي aad ku xukuntay raali ku yiin xukun dawata garanaysan xukunku ku xukumay isagoo leh Sa'd ibn Mu'adh maanta ma jooga buu lahaa lawmatullahi minu ilaahi dartii cid waxaanantiyo waxaas inuu uga cabsado nabiguna alayhi salaatu wasalaam markuu xukumay wakiilaha waxaad ku xukuntay wax ilaahay min fawqi sab'i samaawaat kaga xukumay waxaan leenahay waxa cadaatay ninku ciidu ka tirsan yahay isku gaashaan buurbahayn isku cid baa laakiin waxa uu cadaatay man huwa sida daradeed quraanku wuxuu ina baraya faman yakfur bitaaghut wa yu'min billah wa mufaasala laga soo baxayo aan al-kufri dhamaantii walladina ijtanabu at-taaghut an ya'buduha wa anabu ila Allah waxa ilaahay noo tilmaamaya qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim walladina ma'a id qalu inna buraa'u minkum nabi ibrahim iyo kooxdiisii bay idinku sugantay baa la yiri ku dayasho halkee baynu kaga dayanaynaa nabi ibrahim iyo kooxdiisii markay yiraahdeen baa ilaahay leeyay tolkooda ay ku yiraahdeen bari baanu idin kannay idinka iyo waxa caabudaysaanba walaad baa inoo dhaxayn doonta
xataa tu'minuu billaahi waxdah xidhiidhkeenu kaawmu ku dhisma ma jecli inaan walaalkay mawduuciisa kasii buhabuheeyo waayo walaalkeen baa inoo caddayn doona laakiin waxaan anigu ku dhaafayaa mowqifka odhanaya mafhuumi siyaasa alislaamiya wuxuu ka bilaabmaa mafhuumi alwalaa'i waalbaraa oo mafhuum caqadiya caqiide ku saabsana oo ah inuu qofku muslimkii fahmo manana ثانيا waxaan leenahay mas'alaة الqiyaada baa timi mas'alaة الqiyaada oo ah hogaamintii shacabkii wuu fahmay ciddii u gargaarayo laakiin shacabku wuxuu u baahan yahay qiyaada maamul iyo hogaamin wuxuu kaloo u baahan yahay jamaaca waa laba qadiyadood oo u baahan iyaguna inay waadix qofka muslimkaa caqligiisa ku ahaadaan haddii qofkii uu cad yahay mafhuumkuu rumaysan yahay waa in la ururiyaa dee dadka muslimiinta waa inay organisation ahaadaan waa inay dad urursan yihin waa in dad hiiliyahoo ka dhexeeya yihin waa in dad xidhiidh iyo maamul ka dhexeeya yihin waa inay dad wax wadaaga yihin walidalik baa waxaa taqaanin ahlu sunna waljamaaca waa musطalax ay culamada muslimiinta ku tilmaamaan dadka ugu fiican muslimiinta ama dadka haysta طريقي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أهل السنة بالغ الشاقي سنة محمد عليه الصلاة والسلام بين رأسيسين كو وحق الله لغو الشاقين أهل الجماعة مفهوم كسياسي جاي نوبة هنا إنه يمد إنه فهمت وين نقطة مفهوم كأنه يمد مسلم كي مدهات إنه يمد مسلم كي ولا صعوته إنه يمد مسلم كي وحوال قبطه سيدردد بالنبي عليه الصلاة والسلام حديث تسوحي نقول المامية مفهوم الجماعة إنه دتك مسلمين تسكين كمثل الجسد الواحد سيدا شر قرى أو شرك قيب كمدي هداي عبطبا ليري انتي سكالور دمينه سوچيت يورور بيو سوچيت شركو قيمة وحو كله مركو ودا جيرو لكن مركو كلي كلي قيمة ماله يعني إل هدي هالكا الله دغو لا تنفع وحبا ما أركيسو ودنا هدي هالكا الله دغانا waxba ma tarayo calool haddii halkaa la dhigo iyo keliyana waxba ma tarayaan laakiin marka la isku rakibo ay qof isku yihiin markaas bay qiimo leeyihiin markaas bay ishu qiimo leedahay markaas bay calooshu qiimo leedahay markaas wadnuhu qiimo leeyahay markaasay fartu qiimo leedahay laabudda mafhuumka dadka muslimiinta ah waa almafaahiim siyaasiya siyaasadda dadku wax kale u haystaan laakiin waxaan jeclay bal sida aniga igu muuqata inaan idin tilmaamo مفهومك سياسي كانوا باهنا إنه مجتمع فهما وحويا ما كان ربنا قف صالح وأنتو عبادة يستقد مدو قالوا هل كاكو وردية ما ربنا وصالح وعبادة سنية لكن إنه مال مدو كلي قالوا وحما ما أنفعش وحلوا جبا هي إنه هذا مع الأمة الإسلامية من مدى ومدى مسلم كائن الدريمة حتى أمريكا يعلاد دشرته علي بن أبي طالب خوارج محوك شيء يكوي إلى سعودي إخواننا بغوا علينا بولها إخواننا بغوا علينا وحين لنا إسلام كوحينا بريا سيستم كاسئة إن يدبلشن نقرنا أمد مركزة حتى عبادات كنا الشعائر التعبدية بالله قد واحد جماعة كصلاة وحلينا بري محي عبادة جماعة صلاة بالله يريد كذا لكن وحلينا مركز جماعة طيبة كخير بدنتي كليجا وحي كخير بدنتي محي مركز جماعة ضتي وحلينا بري إن أي نرهبنا وح الله لي وح جماعة حمينية هاي سعاينا هاي سماجنا هاي سود برشيديننا هاي ستولمننا هاي وح نورد بجماعة حمينية سي جماعة السليم النقطة يلي وح سود جوشية وح الله ينبري جماعة ولي بينها هاتو جماعة منظمة شرته أمة الإسلام جماعة أمة مبعثرة إذا وح لنا dhibaatooyinka ina haysta haday kamid tahay bulshadaynu ku barbaarno fawdawiyiin oo nidaamka aqoona caynka waxaynu u baahanay fardigeena muslimka inaynu ku barbaarino qof idaariyo wax maamuli karo fakarayo garanaya inuu noqdo sida daraadeed ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam goob walba muslimiinta waxay hayeen goobo munadama yani taabirta cajiibka waxa kamid ah inuu saxaabi yiraahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka wuxuu noo safi jiray buu leeyahay sida uu salaada noo safo بل تعبير كوفيرس سيدا وصلاة ناصفة يدقالك نوصف جري يعني لابد من صفوف لابد من أمة منظمة
ummad maamul iyo nidaam leh waa inay jirtaa walidaalika waxaan leenahay salaadaheenni cibaadadeenni soonkeenni waxa laga dhigay ummaddu inay wakhti qura wada yeelato xajkeenni waxa laga dhigay inay ummaddu wakhti qura isu wada timaado zakada aadaab ijtimaaciya baa laynoo sameeyey waxaasoo dhammi waxay ku tusinayaan inaynu u baahannay caqliyo jamaaceed inaynu dadka ku abuurno caqliyo jamaaceedna abuurmi mayso caqliya tandiimiya inaynu samayno mooyaane caqliyad maamul iyo nidaam aaminsan caqliyad xerownimo ahi waxba ma tarto waxay tartaa inay saxdo mafaahiim qayb ka mid oo deris la dhigaa laakiin waxaynu u baahannay mafhuum yaroo hadda xarak iyo quriya waxaa maaha waxaan sheegaya waa ummaddu inay mid noqoto inay ballaadhnaato inay ku dadaasho inta ay sii weynaan kartaba inay sii weynaato inay is haysato waxaa laynaga reebay markaasi asbaabta jamaacada kala tuuraysa dhammaanteed oo dhan waxaan u malaynayaa wakhtigu inuu cidhiidh iska yihi marka waxaan jeclay inaan soo koobkoobo qadiyadda saddexaad aan isaga gudbo waxaynu u baahanay qiyaada markay dadku maqlaan caqligooda waxaa kusoo degdega madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taasa qura qiyaadadu maaha alqiyaada fii kulli mustawayaatiha baynu rabnaa waar gurigu qiyaadu u baahan yahay guriga dumistiisa waxa badiya qiyaada xakiima marka la waayo ninka iyo gabadhan laysdhinac ceryaya iyo dagaalkan iyo waxaan la leeyahay xuquuq baa loo doodayaayo war dadka muslimiinta xaq quray leeyino xaqa ilaahay dejiyaa loo dooda ma jirto ra'yi la yidhahdo anigu xaqa dumarkaan u dooda iyo ra'yi yidhahdo anigu xaqa raggaan u dooda waa ragga iyo dumarkuba waa muslim xaqa muslimku qofka muslimkiina u dooda ama gabadh ha ahaado ama nin ha ahaado ilaahay baa mid walba xuquuqu xadeeyey xuquuqda muslimkaa dhammaantood loo doona saf ragna kuma jirno xuquuqu dumarka la sheegayo xuquuqu ragga la sheeg waxaasi waa galbeedka waxa ka yimi dadis haystay ma ahayn dadka muslimiinta oo rag iyo dumar u kala safnaayo qolaba qolo xuquuq kuwani way haystaan oo way isgumaysteen dabeetana xuquuqda xoog baa lagu kala dhacsaday nidaamka reer galbeed dimuqraadigan iyo waxa kan iyo dawladdan doorashada ku salaysan iyo waxa kan waxa qasbay niqaabaadkan iyo cumaashan iyo ururadan yaryar iyo waxaanoo dawladdu hadday waacato dad gilgiliyaa jooga ururo xuquuqdooda ilaashanayaa jooga laakiin innaga xuquuqda ilaahay baa ilaaliyo waa tahay yidhi uma baahnid in loo loolame waxa loo baahanya in qofka la siiyo un xaqu lahaa waxay leenahay marka qiyaadadii baa xumaatay hadday tahay mustawa albayt guriga hadday tahay mustawa almadrasa iskuulka iyo malcaamadda hadday tahay fi mustawa almasaajid masaajidka iyo saa loo maamulayo hadday tahay fi mustawa aljaaliya hadday tahay fi mustawa yani alxaraka alqiyaada ducfi aada u weyn baa ku jira qiyaadada islaamigii waa ahlulfadliga in la qadimo dadkii muslimiintii hore waxaa maamuli jiray cidda cilmiga leh abubakar iyo cumar iyo laakiin wadaadda may ahayn yani markaynu cilmiga leenahay niman inta kitaaba soo akhristeen un dabeetana kitaaba yaqaana may ahayn ee niman nolosha oo dhan yaqaana bay ahaayeen niman nolosha oo dhan yaqaana ayay ahaayeen qiyaadadu mutatallabaad tiro badan bay u baahantahy waxaynu u baahannahay macaalimteena siyaasigii inay ku salaysan yihiin inaynu isu diyaarinay inaynu abuuri karno soo saari karno qiyaadaadkii fii mustawa alcaalam alislaami hogaamin kari lahaa inaynu u diyaar garowno qiyaadaadkii guri hogaamin lahaa madrasad masaajid urur hogaamin lahaa saynu usoo saari karno qiyaadadu cilmigoo qura maaha waayo iimaankoo qurana maaha diintoo qurana maaha wax badan bay u baahantahy abi dar alghifaari radia allahu canhu saxaabi buu ahaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sifaynaya inuu yahay asdaqu lahja saxaabada ninka ugu hadalka cadcadle inuu ka mid ahaa saxaabi buu ahaa ka mida min asaabiqiina alawaliin raggii ugu horreeyay ee islaamo ka mid ahaa haddana abi dar wuxuu codsaday in maamulka wax looga dhiibo alaa tastacmilnii ya rasuula allahi buu leeyay shaqooyinkan aad bixinaysa ilahay rasuulkiisa iyo madanna maamulka wax igaga dartid wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abadar ya abadar inaka imra'un daciif inaka imra'un daciif abadarra waxaa tahay qof daciifa ducfiga abidar xagguu ku jiray ma iimaankaa daciifa kala wallah abadar wuxuu ahaa mu'miniintii ugu horraysay ka mid a ma caqiidadaa ducfi kaga jiray kala wallah wuxuu ahaa qof mu'min oo caqiido saxiixa sida ma islaamkoo dacfi kaga jiray may
waxaanu wadanin mutatallabaat ay u baahan tahay qofka qaa'idkii uu u baahan yahay sidaa daraaddeed buu nebigu ku leeyay isagoo saxaabiyo cilmi loo iimaan loo kana ayuu ku yidhi daciif idan waxaa leeyahy war wadaadnimo ku heli maysaan maamul wadaadaanu ne wadaadada meesha ha loo dhiibo kuma dhacayso waxaynu u baahanay qiyaada xakiima qiyaadanimo cid cuntanta صaxiix iimaanka iyo diinta iyo ammaanadu waa ka mid min shuruud alqiyaada bay ku jiraan ugu horeeya mas-uuliyaadka waxa koowaada lagu qaataa bay ku jiraan waayo jibriil ilaahay markuu waxyiga u doonanayay muxuu ku tilmaamay ii sheega fii suurati alkawthar maxaa ilahay yidhi muطaacin hama amiin jibriil mansilada la siiye la yidhi waxyiguu mas-uul ka noqonaya shaqadaas u qabanaya brofessionka waxa koowaade lagu siiyey waxa la yidhi waxa weeyaan maxay waa amiin saaxibu amaana nebi waloo la soo diraa muxuu talkii ku lahaa inii lakum naasixun amiin naasix amiin ammaana bay sheeganayeen inantii yarayday doonaysay nebi muuse in shaqo loo dhiiba maxay lahayd ina khayra man istaajart alqawiy alamiin ammaana bay tilmaamaysa cifriitun min aljinni muxuu lahaa markuu lahaa anaa soo qaadaya carshigii balqiis mid baa yidhi anaa keenaya intaanad meesha ka kicin cifriit min aljinni baa yidhi anaa keenaya muxuu jinku ku dacwoonaya u shaqada ku doonayay mu'ahilaadku watay shahaadaadku watay maxaa ka mid ahaa wa innii calayhi laqawiyun amiin buu lahaa xoog badni iyo ammaanaba waan leeyahy alammaana waa min addiin waatuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam qiyaamuhu dhici maayo ilaa iyo maxay xataa dayicat ilammaana ammaanadu marka ay dayacanta mooyaane goormay ammaanadu dayacantay marka loo tiiriya buu nebigu yidhi idaa usida alamru ilaa hayri ahlih ammaanadu waxay dayacantay marka maamulka loo dhiibo cid aan u cuntamin alamaana waa shardi inkastoo soomaalidu mahmaahaan ka maqlay baa waxaa ka mid ah ninkay adhiga kala quustaan bay geela u dirtaan baa la yidhi ilmahay adhiga markuu ka sii daayo la yidhaha geela ha lagu daro geelii baana labada ku qaalisanaa agtooda kay dg kala quusataa bay tidhaha wasiira laga dhigo kay doraad wasiirka kala quusatay berrinta madaxweynaha u dooratay iyo wasiirnimada waa shaakiladay hawdka kala timi ee ahaa adhiga kaka adkaan kari waaya geela ha raacday un weeyaan alamaana qadiya bay ahayd macruufa oo qofka mu'minkii uu ku xisaabtamo oo ah qofku inaanu wax qaban karin in ammaanadiisa la hubiyo mooyaane 40kii ninkii la ogaaday inuu khaayinka ahaa ee 50kii la ogaaday inuu khaayin ahaa ee 60aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ee 70aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ee 80aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ayaa 90aadkii haddana loo dhiibaya ma haada dadku ma maskaxda ka tirsan maya almafaahiim siyaasiya almacaalim siyaasiya alislaamiya ayaa gaa'iba cinda alumma ayaan jooginba dadkaan garanaynba cidday dooran lahaayeen dadkaan garanaynba cidda wax loo dhiibayo waa inaan gartaa intaanan sanduuqul ikhtiraac wax ku ridin sanduuqa wax lagu foodeeyo intaan la odhan dimuqraadiyad way wafoode ku soo rid waa inaan gartaa waxa wax lagu doorto criteriyu waa inuu yacadi maxaan qofka ku qiimaynaya maxaan ku dooranaya markaan maxay ka helaa baan u baahnay inaan ugu rido ilaa markhaatigan ilaahay bay weydiinaya qiyaamaha waa markhaatiga ilaahay bay weydiinaya waa inaan gartaa waxaan wax ku qiimaynayo si aan wax u doorto umma jaahilana ma garata waxay wax ku qiimaysa inay tiraa waa nala reer mooyaane ama waa nala qoys ama waa nala caynkan mooyaane waxaan leenahay marka ammaanadu waa shay asaasiya laakiin waxa kaloo asaasiya baynu leenahay alcilm waalkafaa'a in manaasishan qiyaadiga aqoon loo leeyay iyo cilmi iyo hogaamin tusaalayaal baan idin siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam aan idinka siiyey taariikhdiisii mujtamaca la hogaanaya dad baa u haysta mujtamacu inuu mujtamac malaa'ig iyo malaa'ig maaha dadka la hogaamiya waa bashar mujtamaca basharkaa maxaa ku jira waxaa ku jira munaafiq waxaa ku jira gaal waxaa ku jira muslim waxaa ku jira taqi waxaa ku jira faasiq waxaa ku jira qur-aanka waxa alfaad ku aragteen oo dhan baa dee ku jira mujtamaca la hogaaminayo ma aha inta salaada tukatay saful awalkii aan 5 salaadood ka habsaamin ee wada saalixiinta ilaahay ka cabsan inta ma aha inta la hogaaminaya dad baa haysta mujtamacu inuu noocaan noqdo noocaan uu yahay una qof waliba wixiisa ka adigo war nooca ma aha mujtamac darajo malaa'iga gaadhay caalamku ma jiro kii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa munaafiqiintu halkaa taagnaayeen joogeen mujtamacu nebigu hogaaminaya yuhuud baa ku jirtay
waayo dawla islaamiya bay ahayd taxta dawla islaamiya yuhuud baa joogtay munaafiqiin baa joogay bal ee waqtiyada qaarkood gaalaa joogtay muslimiin baa joogay abibakar iyo cumar iyo cuثmaan baa joogay mujtamacu intaasu ka kooban yahay la hogaaminaya see loo hogaaminaya waxaan leenahay hogaamintu cilmay u baahan tahay iimaanka ka sokow cilmay u baahan tahay maalan tusaalehan siya munaafiqiinta munaafiqnimadu inkastoo malaha imika siyaasaddaba nifaaqa loo yaqaano nifaaqu waa wax aada u khatar ah suurat albaqara ilaahay markuu muuminiinta ka warramayo 5 aayadood buu ku sifeeyey gaaladii markii laga warramayna 2 aayadood oo qura lagu sifeeyey warkoodaas ka cad munaafiqiintii markii ilaahay ka warramayay 13 aayadood baa ilaahay kaga hadlay 13 aayadood waayo qadiyadoodu waa qadiyad khutuura badan qof kulana jira kaana jiro meesha joogaan ka maqnayno roorayo waa qadiya khutuura midhana munaafiqiintu had iyo goor masaakiinta ma noqdaan masaakiintu had iyo goor muslim ba iska noqdaan hadday islaamaan islaamku iska wada qaataan munaafiqiintu had iyo goor waa kubaraa'ul qawmka atadruun akbar munaafiq fi cahdi saxaaba soo maray wuxuu ahaa cabdillaahi ibnu ubay waladii tawallaa kibra akbar munaafiq cahdigii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa maxay cabdillaahi ibnu ubay cabdillaahi ibnu ubay nifaaqa intan leeg maxaa ku kalifay kursuu doonayay sama wogti cabdillaahi kursuu doonayo uu arkay in laga qaaday waayo dhacday oo axad saxaaba markaasi nebiga uga warramay dhacday waxay tahay ghaswati bani lmustaliq qadiyad weyn baa dhacday laakiin anigu aan meel qura u soo noqdo cabdillaahi ibnu ubay ibnu suluul wuxuu ahaa nin ka tirsan ansaarta qabiilkay ka tirsanaayeen khasrajiya ayaan rajaynaya aws iyo khasraj dagaallo badan baa soo maro xarbu bucaathu ugu dambeeyey oo 5 sannadood la isdilayay in yar ka hor intaanu islaamku soo gaadhin mararkuu islaamku soo gaadhayay unbay nabad qaateen ayaa labadii reer heshiiyeen waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in cabdillaahi madax laga dhigo oo suldaan loo doorto oo labada reerba isku hogaamiyo cabdillaahi suldaannimadiibuu u sharaxnaa dabeetana waxaa loogu tala jiray in loo tolo kharsigii waxaa loo tolayay taajkii iyadoo taajkii cabdillaahi uu socdo ayay bacdi saxaaba madiine yimaadeen oo qoladii bayc alcaqaba luula iyo bayc alcaqaba taaniya dhacdo dabeetana reer madiine islaamka soo gaadho nebigu muscab ibnu cumayr uu soo dirayo muscabna uu diintii ku faafiyo dabeetana islaamkii uu xoog u faafayo ilaa hijradii dambe ay dhacdo nebigii iyo saxaabadiisiiba ay soo hijroodeen nebigu wuxuu soo galay baa la yidhaha madiina iyadoo ninkii odayga ahaye la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubay uu u sharaxaya kursiga madaxtooyada madiina oo markaasi taajka loo toli lahaa ayuu nebigu soo galay dabeetana dadkii islaamkii bay raaceen qadiyaddii baa isbeddeshay alwalaa walbaraagii baa dhan kale u janjeersaday dawla islaamiya baa meeshii ka aasaasantay dadkii nebigoodii bay raaceen cabdillaahi colaad buu qaaday ee nebi maxamed kursuu kaa qaaday colaaddaas buu qaatay odhanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaa qaaday kursigii dabeetana wuxuu bilaabay cabdillaahi oo aanu marnaba u yaraysan siduu mujtamacan muslimka iyo dawladda islaamiga u dumin lahaa wuxuu bilaabay intaanu soo islaamin saxaaba baa nebiga u yimaadeen waxay dhahay ya rasuulullahi kaalay bal majliskayga soo wacdiyo meeshuu soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi cabdillaahi ibnu ubay oo majlis fadhiyo wuu soo agmaray cabdillahi ibnu ubay baa afku ka xidhay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo leh laa taqburu calayna annaga boodhkiina iyo qurunkiina xagga noola dhaafa buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdii meesha fadhiday buu qur-aan ku akhriyey markuu xoogaa ku akhriyey ayuu wuxuu ku yidhi ijlis fii baytika walaa takshana fii majaalisina gurigaaga fadhiso hanaga imanin majaalista iyo wax yaga kan waa markii uu weli gaalnimadiisa caddaysanayay laakiin siyaasiyiinta waxaa lagu yaqaanaa kaadhka hore hadduu u socon waayo inuu deka labaad la baxo waa wariqa maxruuqa inaad noqotaa waa doqoniimo inaad meel iskaga adkaysato dabeetana ilan iyagu mabdi'iin maahe waa maslixiyiini dee maslaxaddu xaggaa u socon weydo hadday xagga kale u soconayso dee waa la istaad raaciyaa xagga kalun baa loo raacaa
sida daraaddeed cabdillaahi gaalnimadii wuxuu arkay in dadkii laga kaxaysto dee meeshii aanay kursigaasi aanu xaggan ka soo noqonaynin dabeetana wuxuu damcay inuu xagga haddaba isu daataraaciyo xaggaa warjiraayo inuu xagga kan islaamnimadii buu iska soo qaatay laakiin maxay noqotay islaamnimadiisu sheeganayay waxa weeyaan walaa walbaraagiisii muu caddaanin sida daraaddeed ghaswatu bani qaynuqaac reer banu qaynuqaac waxaynu naqaanaa inay gabadh muslimada qaawiyeen dabeetana gabadhii nin muslimi uu diriray oo kii qaawiye waxyeelay dabeetana isagii la dilay haluma dagaalu halkii ka bilaabmay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaa soo duushay iyagoo cirdiga qofkii muslimkaa ilaalinaya iyo ninkii la dilay 15 maalmood baa lagu hayay cunaqabatayn hareeraa lagaga wanaagsanaa akhiiran waxay aqbaleen inay isdhiibaan ayay aqbaleen oo xukunka nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u hoggaansanaadaan bacda shahr yani waa bacda shahr min islaami 15 maalmood buu xisaarku soconayay laakiin cabdillaahi markaa intuu islaamka caddaystay bil qura laga soo wareegay gebigiisuba saxaabadaba wuxuu la joogaa maxay waa bil waaxida bisha uu la joogo 15 waxaa socday xisaarkaa socday macnaheedu waxa weeyaan rabshadan intaanay dhicin 15 casho ka hor ayuu ninkani diinta soo qaatay ama uu islaamnimadiisa sheegtay laakiin cabdillaahi mowqifkiisii buu taagan yahay oo ah reer banu qaynuqaac iyo isagu qabiilku ka dhashaa xilfi wada gaashaanbuur horay lahaayeen oo qoladani dee qolada odayada u ahaan jiray bay ahaayeen yuhuudda ahay cabdillaahi islaamnimadiisu dee ismay dhiibine safkan iyo waxaan inuu khalkhaliyaa unbay ahaydeen wuxuu nebiga intuu ku dhegay buu leeyahay axsin fii mawaaliy ii hagaaji u samafal nimankaanu gaashaanbuurta wada nahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yaro dhagaaday muu rabin inuu aqbalo hadalkiibuu ku celceliyey oo ku celceliyey oo ku celceliyey nebigu ka dayn waayey nebiguna uu ka sii jeestay ilaa iyo markii dambe nebiga ku dhegay halkaa fatxada yare uu leeyahy jeebka waa fatxada yare khamiiska uu leeyahay halkaas buu nebiga qabtay calayhi salaatu wasalaam cabdillahi ibnu ubay isagoo leh axsin fii mawaalay nebiguna intuu cadhooday ayuu wuxuu leeyahy waar isii daa buu nebiguna leeyahy ilaa iyo wejiga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu madoobaaday si uga cadhaysan ninkani uu leeyahy waar isii daa muu aqbalin way xakarsilnii buu nebigu leeyahy isna kama aqbalin laa wallahi laa ursilik buu leeyahy xataa tuxsina fii mawaalay ilaahay baa ku dhaartay inaanan ku sii daynaynin ilaa iyo dadkan ii sii dayso nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy cabdillahi ibnu ubay ba wuxuu leeyahy waa 400 nin oo 400 xaasir wa 300 daar 400 oo nin oo yacni hubaysan iyo 300 oo nin oo duruuc waa nimankii buu leeyahay nin madow iyo nin cad bay iga ilaaliyey ayaa doonaysaa maalin qura inaad wadalayso ma ogoliya ha laysii daayo anigu waxaan ahay buu leeyahay laakiin markuu qadiyadan leeyahay ma wuxuu iska dhigayaa nin qoladan la socda munaafiqiin yuhuudda maya inni imra'un akhsha dawaa'ir buu leeyahay politically maslaxad baan inoogu jirin buu leeyahay yaan maslaxadda mujtamaca la xumaynin haddii nimankan la laayo rabshada ay ugu badanaysa dagaalada badan iyo caynka inni imra'un akhsha dawaa'ir buu leeyahay anigu waxaan ahay nin dhibaatooyinka dambe iyo cidhibxumada ka baqaye ha la sii daaya buu leeyahay nimankan nebigu calayhi salaatu wasalaam munaafaqan wuu ka aqbalo wuu u sii daayey hadda u fiirso waa cabdillaahi waa 400 oo yuhuuda waa goob dagaal waa mowqifka caynkaasiya wuu aqbalo wuu isaga sii daayey mawaaqiftiisa siyaasigaa baan doonayaa inaan tusiyo iyo haddana sida loo wadee loola dhaqmayay waayo qiyaadadu may ahayn un abubakar iyo cumar may maamulayne maca munaafiqiin maca yahuud maca waxaan oo dhan bay qiyaadada islaamiga isku waday sida daraaddeed ghaswatu uxud waa tii la qaatay mowqifa in la dagaalamo oo laga hor tago gaalada waa tii laga hor yimi bartanka markii la marayey uxud in yar loo soo jiro ciidanka muslimiintu marka ay wateenba 1000 qof bay ahaayeen ayuu istaago intuu u khudbaday 300 oo qof buu dib u ceshaday arag ninku siduu sumcadda u leeyahay dadka dee weli badh baa dhegaysanaya 300 oo qof ayuu dib u celiyey 300 qof markuu dib u celinayay ma dhabbaayo ra'yigiisii baa la qaadan waayey dadka badh baa waxay leeyihiin markii uu xaggeer madiine gudaheeda joogu ra'yi soo jeediyo ra'yigiisii baa aktariye laga raaco ma dhabbaayo ra'yigu qaadan waayey ma qabo waayo hadduu masalada marka horeba diidanaa dee mu iska hadho muxuu soo doonayay wuxuu rabay balbala fi saf inuu sameeyo marka ay muslimiintu xaaladdu ugu adag tahay inuu jabiyaabuu doonayay waayo haddaanu dagaalka doonayn madiinaba kama soo baxeen iska hadhi lahaa laakiin markii horena wuxuu rabay intuu dadka ku soo daray isagii munaafiqiintiisa wuxuu dhamay inay soo raacaan
marka labada ciidan isku soo dhadhawaadaanna oo 3,000 ciidankii gaaladu iyo halkan degan yahay inuu muslimiinta safkooda intuu khalkhal ku rido oo laba u kala jabiyo dabeetana ay niyad jabaan oo isdhiibaan sida daraadeed markii mowqifkii lagu soo dhawaaday buu 300 oo ciidankii ka mid ah la noqday si uu safka balbal ugu rido ilaahayna waa kale waa fiikum samaacuuna lahum muslimiinta markaanu walaa wal baraa aqeedadiisa xoog u dhisnayn mafhuumkiisa siyaasiga markaanu cadayn markuu qofka iska qof wanaagsan moodayaanu waxa niyada ugu jiro ogeyn waxa laga yaabaa inuu isla ninka weyn sax weeyaan ama sabab kale inuu dhageysto markaas ilaahay leeyahay wa fiikum samaacuun waxa idinku jira yahuudan iyo munaafiqiinta waxa kan qaar u dhakraaricinayo waxay sheegayaan dhageysanaya nabigu ninkan mowqifkiisa uu ogaayay wuxuu ilaalinayay mujtamaca kan waayo ilaa xad buu gaadhsiiyay laba taa'ifo oo banu xaaris من الأوس يا بنو سلمة من الخزرج حتى أي نقن قاعدين يجونا لبكو هذا الصحابة كم ده أوس يا خزرج بكم ده أهي ينا كوش سكتي إن الدجال كسكان نقدان وإلهي القرآن كوش يالي إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وحنا نوح السميني إنه بلبلة سفكا كرده نك عين كاسي iskama wada dhigayn nin islaamka nacib ee wuxuu xaga kalena nin iska dhigay inuu islaamka u gargaarayo oo kaasoo arrimo cajababa laga sheega ibn hisham baa wuxuu leeyahay munaafiqa kan khadaaciisa falxumadeeda buu yiri sidoo u dhaqmi jiray marka uu nabigu maalinta jimca khudbadaynayo ayuu nabiga hortii buu istaagi jiray la yiri salaada jimca nabiga hortii ayuu istaagi jiray markaas wuxuu oran jiray hada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam bayna adhurikum akramakum allah wa a'azza bikum فانصروه وعزروه واسمعوا له واطيعوه واركني بو يراهدا وا الهي الرسول كيسي او الهي دين كو غرغاراي او وا كان ee u gargaara oo u hiiliya oo waa kaasoo dabeetana uu fadhiisan jiray waa khudbada jimcaynta nabigu jeedin buu inta ka sii hor jeediya oo leeyahay nabiga ha loo gargaaro ilaahay bay dabeetana uu fadhiistaa baa leeyahay ghazwat uhud markuu wixii sameeyay ee uu tagay ayaa jimcihii dambe muslimku soo yimaadeen ابن هشام وحلي جمعيد دم يسوتها قاعدنا في الحمديس يسقول هذا رسول الله أعزكم الله به يسقول ويا نكن الدس سياسي يوم الرباين وعيارون مرة رباين بالشدة كبحه ولي وحو الربا طوب كايس لم ماذا ينسيته وحوها اتصالات بدن لله قال ذا يهودية وحكا وواك القرآن كنت الماما ينو لها حتى لئن خرجتم لنخرجن معكم وهذا سدواك الشيء محانو قد شيء داون ninka caynkaasiya maalintuu wararka sheegay ee la kharijanna al'azza minha la dalla sheegay ee wiilkii raayay zayd ibn arqam warkiisii adeerkii u sheegay adeerkii nabiga u soo sheegay alayhi salaatu wasalaam ee akhbaartiisii ay cadaatay ee odayadii madanay dhaayeen lacala wiilka yar baan ma saari wuxuu maqlaynay ninka weynay waxa kuma hadal ee ilaahay quraanka soo dejiyay wiilka yar warkiisa run lagu sheegayo oo la sheegay abdullah inuu munaafiq yahay waxa kale oo dhan sameeyay ayuu Umar yiri ilaahay rasuulkiisiyo mur Abbad ibn Bashar falyaqtulu Abbad ibn Bashar ninkan hadii la farbu yiri hal dilakan nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هذا أورندونتا نبي عمر هذا يدتكو هذا وكشة كيستا يعني قضية سياسية والنضوج سياسية ما هذا يلي دون تابو النبي يقول يا عمر هذا يدتكو هذا وكشة كيستا محمد أصحابتي سولايا سيقول كوغن ومنافقية أي مسألة حكوا وينو إلى لنا ينالو الدليل لور ريبة يسيدة تبتنا النبي يقول فرسمك لو هراء دتك ويا دبولين يقولان والله رأيتك هبينك يودن بي سعودين مالتي دنبو دنبي سعودين واقي دنبو بري نفتي با يغو هيستو ميل دجيو ولا ودا داto wala seexday ila dadka maskaxdoodiiba wixii ka maydhmeen tabatana ilaahay quraan soo dejiyo wararkan kaga waramay qadiyadan uga jeeda maxay waa dambe markuu fadhihadihi abdullah ibn ubay ay cadaadeen ayuu wuxuu leeyahay ibn hasham nabigu wuxuu ku yiri umar kayfa tara ya umar ama wallahi law qataltu yawma qulta li aqtulhu la ar'adat lahu unuf كورن بوكو يدي عمرو أما أرنك السيداد واركي سامانتي عبد الله ومالين دنبود منافق نمديسي عداتي ورقي برقي هوري ويرا حق لنا يوذي وقادين ولا يري وار منافق يوكا بحضاتك الويري هدان مالين تيبو نبي يقولي ديلي لها ضدبا ما أنت مالين تا الله عرون لها يا مقبيلة كل رعب موحكا ضدبا الله عرون لها لكن ما أنت بيقولي ولو أمرتها اليوم بقتل اللي قتلته كوي مالين تا عرون لها ما أنت هدان يدهد الدلاء ويديلي لها
markaasuu cumar yidhi qad wallahi calimtu lamru rasuuli llahi sala allahu alay wasalam acdamu baraka min amri waxaan uga jeedaa qiyaadadu mutatallabaat badan bay rabtaa mujtamac baa lagaa rabaa inaad hogaamiso jaaliyad yar masaajid organisation yar in ka weyn dawlad mujtamaca waa inaad ku tala gashaa mujtamac malaayiga inaanad hogaaminayn ee waa inuu qofka qaa'idka iyo qof wadi kara munaafaqaasi iyo yahuudiga iyo gaalka iyo dadka muslimiinta isku wadi kara mabda waa inuu mabda islaamiya yahay laakiin qofka qaa'idka iyo jajabnidiisa iyo waxa looga baahan yahay ma aha oo keliya ee wadaad baanahay ee waxa looga baahan yahay farsamada inuu garanayo administrationkiisa iyo maamulkiisa iyo wixiisa inuu garanayo waxaan jeclay waa la idigo warqad baa laysay mala kaarkii casaan baa harsanay riyaha bakaar cas baa la taagayay waxaan jeclay inaan ku soo koobo weerd ah macaalim في سياسة الأمة هذين نريبين التلمامين وحين شغنا نوع من العقبات إنه ريال وحين نوبة هن معالمته إنه هنا ارتكاسته قفك مسلم كاين إنه فهم سينا كويه هي عدوه لنا يعدوه قرقارية ثانيا إنه قرط سينه ومدى مسلم كينا الجماعة الآن نولان كرنا الجماعة كمارمين مفهوم كسي إداري إمام الكلاء الجماعة إنه كأبره ثالثا إنه ندتك أديار قرينه سيدي قيادة ونقم كاري الهاي ummad dad hogaamiya ummana marka ummad la yidhaahdana nooc waliba wuu ku jiri doonaa oo ma helay siduu nin yaroo wada weysaysato salaatuleelka tukatee waxaad hogaamin doontaa dad munaafiqiin iyo nooc walba leh jamaacadu nebigu hogaaminayna noocaas ahayd macalasaf waxaan se dareemayaa in badan inaynu kuraasi iska fuullay jaaliyaad iyo meelo badan leh inagoo aan saa dadka loo hogaamiyaba waxba ka aqoon hogaamintu se waxay u baahantahay مواهب ويلاد إلهي وبحيه وقفك الله سيه لكن واحد كلا لا ده أشياء مكتسبة ولا برطة ولا فهم كرا ولا قرن كرا من الكتاب والسنة دي سيفي عن لو دراسيه ولا فهم كرا علمت بشر كنا تجربة بدن بيلاد وحن كسي كوبا يا مركاسي متطلبات كقيادي جانا وين إن إلا بين مجتمعنا وين إنه كنت رجع الله مجتمع إنه يهي وحول بكتشري كران كلو باهين له جاميو ملايك ناد هجامين والله أعلم بالله التوفيق جزا الله خيرا الشيخ مصطفى محاضرة قيم كاهيد ونوسو الجديد عوان كذنها معالم في سياسة الأمة الإسلامية وحن إن شاء الله تعالى مركان إيمانينا دور كأسئلة ذا أما قيبه سؤالها كساب سنة وحا سؤال شكرا كساب سنة الشيخ مصطفى waxaad nooga hadashaa had iyo goor ala siyaasadda iyo maaragtay arrimaha la xiriira haddaba ma jiraan buu leeyahay sheekh mustafa kutub aan ka dhaxalno isla markaana aan ka akhrisano mawaadiicda aad nooga hadashay ee maaragtay aad noo falanqaysay hadday jiraan si xageen ka heli karnaa iyo maktabadee akhi fillah haddaad kutub doonayso culamada iyo dadka muslimiinta ee mufakiriinta waxa aad u badan bay qoreen laakiin himamkeenna yar iyo waxaynu akhriyayno ما ها قضية ما أنت مسكين كان إذا هرفر ديا وباهن إن مفكر كردك تانو تلا دام واحد قاعد شمات قصد وحنا شجع واحد يجو شجعنا على مدى مفكرين مسلمين بعض الكتيبات أكتي نكب حوم عن أخريها وحكى بطن ما شجع وحن مركايدين تلمامية وهالمجال كسياسي جاي إسلامي وفقير هواجرتي لكن ما أنت قاد بوسو كبعية وأنا لا يه الرواد دي سيا مفكرين تسيا عدي سبضنا وحكى قرا أي مكتبة إسلامية الله حديدنا جانب كسيئة ثقافة ولبا قسم يقصاب سن human sciences أما وحيابها كان أدب كيو وحن بشر كأما اقتصاد هالنقطة أما سياسة هالنقطة أما يعني وحن سكحران هذا يقول ابن آدم كاللجوها جا وهو بدنت كتابة دي شيء مسكين ككتابة وجمبه هندينا مكتبة الإسلامية كون نقطة والله أعلم. جزا الله خيرا محاضر الشيخ تنس سؤال أنا وحين وقت منين آدي آد ماركتا يعني أكل العبنا ينال له سيدان صو سعته وحن كأجدك يا أحمد قال لنا السؤال شيء ذا أهوس كليس المركان وحن دون يا بلي السؤال شيء دون أيتهاي وحن هاي بلي هاي والرضا الإسلامي جاي يكون الوضمات اسكندنافيان كوحن حاضري بلي الشرر أدو ترى بدن ستوكهولم كيلو وقت يتبوري مراكل جدسن هذه قرانا وحن لجوب باقي هاي مسلمين جاي قاعد كان اسكندنافيان كإلا مدية هذا محن أسمي سويني أنك ناقصة ومارك يعني محن كره هذا هي كهلا مديسن يعني هاي معناه رئيس كوي مسيد بدن الوقرة بورك مارك يعني شرك
aday kugu socotaaba fale aday kugu socotaaba malaynay su'aashuna طيب su-aashan kalena waxay ku saabsan tahay macnaha waxa weeye isla mawduuca ah in xisbi siyaasi ah maadaama aan ku noolnahay waddamadan Scandinavianka isla markaana macnaha waxa weeyaan loo codeeyo xisbiyaal maarta cilmaaniya ama xisbiyaal gaala ah may banaanta markaa in loo codeeyo iyadoo laga rajaynayo maarta in uu cawaa'id siyaasiya ama maarta faa'iidooyin siyaasadeed in laga helo macnaha ama masaalix ay u qabtaan muslimiinta xisbi maxay waxa uu doonayaa in loo sheegay inay bannaan tahay in axsaabta siyaasiga ee ka jirta waddamadan Scandinavianka in loo codeeyo codka la siiyo vote-ka la siiyo si ay muslimiinta iyaguna ay maarta wax ugu qabtaan ama ay maarta siyaasooyin ay muslimiinta ku wajahan ay siiyaan taqriiban sida musaashada waa mas'ala fiqhiya ahlul fatwa ana u baahan dawayna la jooga mala caalimkeena Umar baa la weydiin beelad anu ra'yikum alihi waxa ay ku saabsantaa laga yaabaa su-aashan xagga maaragta yacni masaa-ishii ku saabsaneyd macnaha shirkii wadaadada waxa uu leeyahay shirka wadaadada ee lagu qabanayo masalan xamar oo kale ama meelo kala gedisan maxay u dhacdaa buu leeyahay in wadaadada kaliya lagu casumo oo aysan u dhicin maaragta in siyaasiyiin kale laga soo qayb geliyo maadaama meesha siyaasad ay ku salaysan tahay in siyaasiyiinta kale ay ka soo qayb galaan macnaha loogu yeero shirarka islaamiga ee dhaca ee aysan dhacin wadaadada kaliya in loogu yeero meesha maadaama siyaasad looga hadlayo runtii ummad islaamiya hadday jirto oo itijaah islaamiya ay leedahay waxa habboon bikulli jawaanibiha inay mustaqbalkeeda ka wada shirto laakiin waxaan leenahay dee siyaasigu hadduu cilmaaninimo marka hore rumaysay ima ogola isagaan raba inuu ka soo qayb galo qofku mabda'a waa inuu ku qancaa aqoontiisuba yay badnaanin mabda'a waa inuu ku qancaa hadduu siyaasi cilmaaniya markaasi yahay dee asal buu secularism aaminsan yahay oo asal baanu kula mabda ahayn yacni shirka shuuciyiinta ideologiga ay leeyihiin dee rasmaaliyiintu ma tagaano kama soo qayb gala waayo waxba ugama danaha marka siyaasigu hadduu nin cilmaaniya yahay dee isagaan rabin laakiin hadduu qof siyaasi islaamiya ku fakeraya uu yahay waxaan leeyahay ugama xaqa lahaa kuwa culamada oo quriyay isna waa in ra'yiga la weydiiya oo ka qayb gala dadka muslimiinta ah qadaayaadkooda iyagoo u dhan waayo waqtiga ayaa cidhiidhi ugu noqday macaalimta waxaanu arkayay waaweyn inay ka mid tahay almaclam ashura oo u baahnaa runtii inuu noqdo maclam aan xoog u tilmaamo oo ah waxyaabaaan rabna inaynu mujtamaceena ku tarbiyayno macaalimta siyaasiga islaamiga ah inaan cid gaari un dadka intay godmado ula gasho u soo goynin oo kuun odhan waxaas baa la soo gaadhay inay dadku waxooda ra'yi ku yeeshaan afkaartooda inay ku yeeshaan wixii ilaah iyo kitaabka alle iyo sunnada nebigu goysay iyada dee caalimna war kuma leh cid kalena kuma leh waxa kale ra'yi ah dadku aaraada wuu siman yihi sida daraaddeed waxay ahayd in aad ummadda loogu faafiyo siday u shuurayn lahayn shuuraduna ma aha qadiya siyaasiya baxta ee waxaan leenahay waa qadiya mabda'iya islaamiya mana aha qadaayaadka waaweyn ee ummadda qure xataa kuwa yaryar waa in laga shuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa saxaabada waxay ku sheegaan cid ka mashhuuro badnayd ma jirin cid walba wuu la tashan jiray ilaahina wuxuu qur-aanka inugu barayaa xaalaadka ugu adag inaynu ka wada tashanno maxaa ka mid ah gurigu inuu shuuro ku dhisnaado yacni guriga waxaan had iyo goor laysu haystee laleeyahay gabadha xaq laga qaadiyo odaygaa xaq qaatay iyo odaygaa xaq uu lahaa waayey macnuhu wuxuu ka yimi reerkaan wada tashan hadduu reerku wada tashado talada la gaadho dee odaygaa meesha ku maamuli lahaa odaygu maaha dictator la yidhi dadka hor fadhiyo adigu xaggaa doonta u jiidjiid waxay ahayd carruurta iyo odayga habarta iyo ilmaha iyo waxba in lala tashado ma waxaan uga jeedaa odaygu talada yuu yeelanin maya war waa barbaarin aad odayow carruurtaada barbaarinayso aad barayso inuu qof yahay qof fakeri kara qof wax niqaashi kara qofka haddaan waxaan practically loo tusin shuuraa bannaan haddaad ku tiraa waamruhum shuuraa baynahum haddaad u akhrido waamruhum shuuraa baynahum isna u akhriyo uu ka tegi laakiin wuxuu u baahan yahay practically in loo fuliyo hadduu odaygu markaa intuu jalso u sameeyo reerka haweenaydiisa iyo carruurtiisa iyo waxaanba la yidhaha berri maxaynu qabannaa laga wada tashado waa inuu qanciyaa oo siduu u qancin lahaa waa inuu u dadaala qadaayaadka ugu adag hooyada iyo aabbuhu markay kala tagaan baa la yidhi hadday carruur leeyihin ilmahaasi uu naasku nuugayo naaska ka goyntiisa baa la yidhi waa inay shuura ka dhacda suurat albaqara baa ilahay ku tilmaamaya
haddii la yidhi waxay ka wada tashanayaan odag iyo islaantii kala tegey ee isfuray ilmahoodii ay naaska gabadhu jaqsiinaysay ayay ka wada tashanayaan in naaska laga gooyo iyo inaan laga gooynin hadday wada joogi lahaayeen markaa maxay ka wada tashan lahaayeen waxaan leenahay markaasi maaha arrintu siyaasiyiinta maxaa wadaadada ugu yeedhi waayeen waxaan oo dhamiyo waxaan leeyahay war weli wuu inaga maqaya inaynu kobacno oo u kobacno qaab ah inaynu qadaayaadkeenna had iyo goor ummadda aynan ka qarin ummadda inaynu la tashanno ummaddu inay wada tashato ummaddana inaynu u soo jiidno mabda'a islaamiga dhankiisa siyaasiga cilmaaniga laakiin aniga qiimo iguma fadhiyo la tashigiisu waayo marka hore aynu kale mabda'nay qiimo badan iguma fadhiyo wallahu aclam jasa allahu khayran sheekh mustafa sida uga jawaabay su-aashaana waxa ay maaragta yani ku saabsan tahay fikradda laga qabo dadka reer baadiyaha dad badan oo reer miyiga ayaa boqolkiiba boqol ka ra'yi wanaagsan dad reer magaal ah marar badanna waxaa lagu celceliyaa maaragta reer baadiye galti wax magarad badana marka waxaan doonaynaa maaragta su-aal kale oo ku lifaaqan ayaa waxay odhanaysaa sheekh mustafa waxaad ku sheegtay dadka soomaalida inay yihiin dad maaragta yani nolol reer miyi ah oo sadxiyiin oo maaragta yani iska sahlan ra'yigoodana uusan si badan maaragta yani uusan ahayn mid qoto dheer haddaba waxaad noo kala saartaa miyay kala xeel dheer yihiin labadan eray badow reer baadiye keebaase labadooda liita qadaayaadka mustalaxaadka la yidhaahdo waa laa mushaxata fi listilaax baan ka maqli jiray culamaa usuul oo yidhahda runtii reer baadinimadu salbiyaad iyo iijaabiyaadba way leedahay yani positive iyo negative ba wax fiican iyo wax xunba labadaba way leedahay wax fiican oo aada u badan bay leedahay oo lagu yaqaano reer baadiyaha deeq bay leedahay anaani maaha had iyo goor qofka reer baadiyaha ku noole waa qof nakhwa leh waa qof yani aan aqbalin dulinimada iyo in la gumaysto ama se la cadaadiyo ama caynkana aan aqbalin wax badan oo sharaftiya buu leeyahy naqaatu ducufna wuu leeyahy meelo uu ku liitana wuu leeyahy waxaynu ka tilmaamnay maadaama inagu aynan xadaarad lahayn inagu ma kala lihiin magaalo iyo baadiye waxaana kala sheegaysaa xamar iyo ka gela raac waa isku nooc ma aha xadaara meeshan ma taalo waa ahlu badwi uun midna weli geeli raacaya midna shalaytu ka yimid xadaare qadiim aynu cid hore ka dhaxlayna way tirtirantay yani melihi qarnigu ma lahayn xadaare wuu lahaaye waynu lumina maynan soo gaadhin waa iska baabaaday caqliyada marka aynugu jirta ama surwaal ha xidho ama macaws ha qaato ama go' yar ha guntadee caqliyadu waa caqliyada socodka ku wada salaysan ee iminkana aad dayaxa inay qabataan sii raadinaysaan soomaaliya laga yimi waa caqliyada raran ee waxeeda tuurta ku sidata waxaan leenahay marka caqliyadeenaasi melihi ma laha wax positive ah ee wax badan oo fiican bay leedahay oo ay ku ammaanantay oo ay reer magaal badan ku dhaanto laakiin waxaan kaloo leeyahay waxay leedahay meelo dacfi uu ku jiro sida daraaddeed maadaamaan ka warramayo macaalim fii siyaasati lumma aynu rabnay inaynu dadkan hogaamino meelaheenna wanaagga hadda waynu isla ognahaye waxaan rabay inaan tilmaamo meelaheenna dacfiga uu ku jiro ee u baahan inaynu ka kabanno oo hore uga guurro erayadan aad kala sheegaysaana anigu wuxuun baan ujeedaa un waa dad aan lahayn tajribo dheer oo u guntan oo meel u taalla ama badaawo ku sheeg ama badwi ku sheeg ama reer baadiye waxa doonta adigu u bixiyo ama nomadic dhaho waa dad tajaaribtoodii hore ka luntay oo kolba waxay markaa haystaan u ku binaysta wallahu aclam jaza allahu khayran waxa uu leeyahay maaragta yani qorahaanina marar badan waxaa laga dhawaajiyaa in ninka maaragta aan diinta waxba ka garanaynin uusan ku fiicnayn inuu ummadda hogaamiyo marna waxaa la leeyahay ninka ku wanaagsan ha hogaamiyo laakiin dhaliilaa imaanaya ninkii diinta yaqaanin inuusan si fiican waxba uusan u kala aqoonin ama uusan umuurihii siyaasadda uu si fiican u kala garanayn su-aasha kale marka waxay odhanaysaa ama su-aashuba tahay kuma ayuu noqonayaa kan hogaaminaya haddii labadiiba dhaliila loo yeelay mawaaqic aynu ku nool lahay mise ka aan rabo inaan idiin celiyo nolosha aynu iminka ku noollay waa nolol wakti soo jirtay diinta iyo dawladda iyo wixii la kala saaray qoloba meel ay isku qoqobtay qolo walibana ay nuqsaan leedahay yacni waagii hore dadka muslimiinta ahi waxani may kala baxsanayn qof kasta oo muslimi mutadayin buu ahaa markay masaladu fatwo timaado dad u gaaro mujtahidiina baa jiray oo ahlulijtihaad ah laakiin markay tahay siyaasa caama iyo afkaarta caamka iyo itijaaha caamka iyo in kitaabka iyo sunnaa laga dambeeyo qof kastoo muslimioo taas buu qabay dadkii muslimiintii hore wuxuu ahaan jiray ninku tabiib dhakhtar jaraaxa
markaasuu haddana minhaajka isagu ka akhriyi jiray ibnu nafiis waa taqaaneen waa jaraaxii wadnaha qali jiray dawra damawiya suqa yani qalitaanada ugu waaweyn caalamku lahaan jiray waqtigiisii الدورة الدموية الصغرى وانك invention كذا لها بين reer galbeedku ninka talyaaniga u nisbeeyaan ama qoladan ay soo nisbeeyaan asalkeeda waxa laha qabla qurun ay kitaabadiisa caadi ugu qorantay uu ka waramay dawra damawiya sughra ama dhig wareega yar uu ka waramay nin dhakhtar oo caan oo Misr degan buu ahaan jiray haddana faqiih buu ahaa masaajidka wax ka dhiga yani waxani wax kala fogo kala tagan ma yahay wuxuu ahaan jireen dadkii muslimiinta hore Abu al-Hasan al-Haythami wuxuu ahaa nin cilmi al-basariyat dunida ilaa waa dhaweyd nadariyaadkiisa laga dhaqmo xataa ay yiraahdaan Albert Einstein nadariyaadkiisa physics-ka light-ka ku saabsan qaybo kamida tilmaamaya inxinaaga dawgu uu sameeyo isaga ugu horeeyay bay la yiraahdaan hypothesis-kii koowaad waxa lahaa Abu al-Hasan al-Haythami cilmi al-basariyat ayu caalim ku ahaa lights-ka iyo waxa ku shaqaleeyo ifka iyo soo socdayo khabiirka ahaa عالم مسلم أبوها كتاب كيسا فيزيكس كان مركو بلابيو الحمد لله رب العالمين بكو بلابيو تحميد يا بس يعني وحني نقول إنه كالإيريني لكالفوجيان كالفوجي أبي بكر عالم مسلم أبوها نين ويا رجون الله شيء ما ملك يدي سوا حلا وضع يقام بوها نين تهجر باع مشترى بوها نين ومضى صار رقم يوها لكن إنك مشكلة باينة قبضتها قال أنا حرب بين نقط وأنت مساجد كفريستي كتبته وده سكر راعت qarnigan iyo waxa ka dhacayaba ma ogeyn qarnigan iyo agtooda waxa laga wadaba ma ogeyn kitaabadoodaas iska raacdeen oo ahlu fasaadkaas iskaga dheeraadeen qolana faajiriin bay noqdeen oo kubkooda weysama mariyaan waa laga yaabaa tajaaribta bini aadamka inay wax ka yaqaaniin xoogaa culumta tajribada insaanka lagu helay inuu wax ka yaqaano laakiin tawajuhiisu xagga allaba uma jeedo waxaynu rabnaa ummadda inta loo heli karayo inuu hogaamiyo mid kitaab iyo sunna si fiican u garanaya noloshana la socda ama waxaynu rabnaa hogaamintu maanta dunidu way dhaaftay baan oran karaa hogaankii fardiga ahaa ee qofka quri waday maanta dunida muassasaad baa wax hogaamiya ummadu waa muassasaad dhisan qof maaha hadday dadka qof wixiisu yihiin markuu dhinto dee ummaduna way la dhimanaysaa intuu nool yahay way la noolaanaysaa laakiin ummadu waa muassasaad jira muassasaadkeedan baa waxa kan isugu yimaado ka qayb qaato oo wado oo fakaro idan waa muassasa dhan ninka yimaada ahlu xalli wal aqdigooda iyo dadkooda fakariya ahlu takhasuskooda khutadka u dajiyeen baa loogu talagalay inuu fuliyo ma aha nin qoro kaligi caalim bi kulli shay master no all nin la yiraahdo joker nin ahay meesha tan ma jiro laakiin qofku waxa loo baahan inuu ilmaam u leeyahay laakiin cilmu diin haduu qaa'id ka sara noqonayo wala bud min al-adala wal ilmi shar'i هذو نقرأ محي القائد الأول لكن قضايا كلا وين نصيف عنو قرنية هذا سوق أبا وحلا هدينو ينجو ويني رجعها شابه هنا ينسكت ضر والله أعلم طيب جاب ضيق إلهي ركع كليو شابه هو ضد كان وحقا وتيهن كلا بتصن كوحقا الدين تهو ضيق كوحقا علم جماد جاي وحقا جينا هدين نسكت درسنا مشهورة ضبطنا إيه ثلاثة إيه تلوداء إيه aqoon isweydaarsiga iyo isfahamka iyo waxa kan hadaynu badino wax waynu isla wada karaynaa su-aashan waxay ku saabsan tahay arintii maaragta doorashada ee maaragta Pakistan iyo Turkiya maaragta yani axsaabtii siyaasiga ahayd ee islaamiga ahayd laga weecday looguna shubay axsaab cilmaani ah marka qorayaal laba ah ayaa maaragta arintaas aad iyo aad wax uga soo qoray waxayna leeyihiin maaragta yani arinta isku waafaqsan yihiin waxa weeyaan miyaa laga yaabaa in arinta looga weecday ama looga tagay axsaabtaas ay tahay kalsooni darro lagu qabo arinta siyaasadeed ay u istaageen inaysan ka soo bixi karin haddii ay arintu saad sheegaysaan tay oo ah inaanu aaminsanayn kafaa'ada ninkan leh islaam baan wax ku xukumaya oo uu codkiisa kala xishooday miyuu xaq u leeyahay faajir ilaahay rasuulkiisaba ka go'ay inuu codkiisa siiyo yani tusaale waxaan idin siiyey laba intay urur oo islaamiya oo inta kii muslimka ahaa kala yimaadeen ugu riday kii faajirka ee cilmaaniga ahaa hadduu yidhaahdo waxan baan ugu kalsooni kuma qabo ama meesha tanbo markhaatigaa geli maayo hadduu yidhaahdo waaba qadiyad kale wax laga gartaa laakiin intuu isa soo xamuuro inuu ka yimaado kule ilaahay iyo rasuulkiisa xaggoodan kuu kaxaynaya inuu ugu rido mid la bayt al-abyad baan qibla kaaga dhigaya inuu siiyo cod miyuu xaq u leeyahay aakhira si xaq u qabanaya wallahu a'lam
kuguma kalsooni macnaheedu maaha gaalkan ku kalsoonay tanna waxa ay ka hadlaysaa insha allahu tacaala su-aal ku saabsan macnaha madaxtinimada qofka dumarka ah taa oo ah macnaha weeyaan haddii macnaha weeyaan manaasibtii madaxtinimada aysan qaadan gabadhu aysan ka qayb gelin ma suurtagal baa masala wasaaradaha iyo arrimaha maarta yani wakaaladaha arrimaha la midka inay gabadhu maarta ay madax u noqoto caqliyadii loolanka wali idinku jirta waxa jirta al-ustaad Sayyid Qutb rahimahullah ay su'aal weydiiyay waxa ku yidhaahdeen Sayyid Qutb gabadha muslimadii baarlamaanka ma geli kartaa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa intaan tan ka jawaabin inaynu helno mujtamac muslima iyo gabadh muslimada dabeetana aan eegno bal iyadu inay baarlamaanka soo doonato markaasaynu ka jawaabaynaa buu leeyahay xaq mawlaada mise uma lihi laakiin meel aan haynin ba buu leeyahay mujtamacii muslimka ahaa iyo ummadii yani hadday ummaddu muslim noqoto hagaagto qof waliba dowrkiisa uu garanayaa buu leeyahay wuxuu ilaahay wuxuu jideeyayna uu garanaya marka waa su'aal aan waqtigeedii joogin buu tilmaamaya cumuuman gabadha muslimadda ah manaasib badan oo loo ogol yahay iska jirta waxna waa wax loo door bidayo waxna waa waxay mubaax u tahay مثلا guriga waxay dadku ka fakaraan dheriga karintiisa markay guriga maqlaan war gurigu nooca maaha aqliyadiina aad bay u liidataa gurigu waa mu'assasad dhan oo kamida mu'assasaadka ummadda muslimka ay leedahay jiritaanka dadku ummadda la sheegaya waa guriyo isu tagay gurigu siduu yahay un baanay ummaddu tay gurigu hadduu wada dictator la iskaga dhaqmo xaakimka sarena waa dictator ay ummaddu dee mu'assasaadkeedaba nooca u dhisan gurigu meel la isku dulmiyo hadduu yahay xaakimka sare iyo siyaasadda sarena waa meel la isku dulmiyo ummaddu gurigay ka dhisantaa ilmahan carruura iyo tarbiyadiisu waa waxa ugu weyn waayo waa mustaqbalkay ummaddu lahayd ilmaha carruura maanta أحد العلماء المعروفين وألكسيس كارل في كتاب إحدى الكتب والسلوك الدقق أو كجورمه ألكسيس كارل ونرر قلبات و30 سنة روكفيلر ريسيرش كاها باحث ناتو دقالة دي لبادة دوني دوها لطليا دختر كيوغوي نوبل برايس قاطين 1902 ألفكي يعني أفراد فرطة لغو في قد دوني ده من كم يدبوها أيوحو قريبوك markaasuu wuxuu ku tilmaamayaa ilmaha iyo kobcintiisa markaasuu wuxuu yidhi tusaale soo qaadaya marka wuxuu yidhi ilmaha xadaanatul atfaalka lagu kobciyo ilmahan inta la isu soo ururiyo kindergartenka baana haagaa la keeno ee halka lagu kobciyo iyo ilmaha guriga lagu tareengareeyo buu isbarbar dhigaya markaasuu wuxuu yidhi labadaa difference-ka u dhaxeeya waa caalim dunidu uga dambaysa cilmigiisa labadaa difference-ka u dhaxeeya waxay la mid tahay buu yidhi tajriba la sameeyey buu yidhi ay lagu sameeyey ayda meesha lagu kobciye lagu tababaro ee intay dhalaan dabeetana carruurtooda la ururiyo dabeetana nin training yaqaano tababari uu tababaro iyo ayda waalidkaa buu yidhi ay waliba uu hooyadeedka yari uu iska dabagalo waxa intelligence-kiisu horkobci ogyahay buu leeyahay oo trainingka hor qaadan og oo fahmadiisa iyo fiicnaantiisu badan tahay kan hooyadii iska daba socda waaye buu leeyahay qof weyn oo wax kaga daydo example-ka ka qaataa meesha uu jooga buu leeyahay sida daraaddeed kan baa qumanaan badan buu leeyahay kii mutakhasiska loo dhiibay ee boqolka yar ee ama tobanka ay isku hayay train garanayay kaas baa ka hor fahmay buu leeyahay waayo qudwa buu helayaa buu leeyahay ku daydo gurigu waa qadiyad khatar ah mustaqbalka dadka iyo soo saarkooda waa qadaaya khatar ah gabadhu iyo mujtamaca qayb ka mid ay wadaa لكن شقين بدنه كله له أقول يا شرا هذا ظروفي كانته يعني بعد العلماء واحد تلماما حتى الضمر كي مسلمين تهرى قار كم بدي عادي عمر بن الخطاب إن هايان محي آمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما الأمر بالمعروف إن ما ضحكه هيدا كله بعد العلماء واحد قبان من أزيش ابن حزم يسوي ده الرأي يد فوق بو قباوحي الإمامة العظمى كسر يسبوا قبان كرتابو قبا قار كلا واحد قبان ما لها إمامة العظمى قاضية يكاس يقوم ويانا عماشة كالوردن لكن شروطون بيكو حرنتي شروطك له waxaan uga jeedaa markaas ikhwati meel dad lagu loolansiinayo gabadh iyo nin la isdhina ciriya meeshan ma taale
meel baa jirta dad muslimiin iyo guri muslim iyo ummad muslima la dhisayo gabadha muslimkii dadka muslimiinta wax badan bay u qaban kartaa ahdigii nabiga dagaalka ka qayb galeen dagaal caadi ah mid badeed bay ka qayb galeen bal nabigu intuu hurdo ka toosay ayuu yiri waylun lil arab waylun lil arab waylun lil arab misha wuxuu sheegay nabigu kaleey salaatu wasalaam arabta in balaaya qabsan doonto dabeetana qadaayadkii markuu nabigu wadwaday wuxuu tilmaamay inay ummadda muslimiinta ka mid noqon doonaan qaar maxay badda ka jihaadi doona haweenay ag fadhiday muxaram oo gurigeeda jooga ag fadhiday ayaa tiri ilaahay rasuulkiisa igu duceeyna kuwa ka mid noqdo ustul bahriga ina raacaba ileedo ka dagaal galo ilaahay rasuulkiisa kuwa igu ducee anta minhum bu nabigu ku yiri qobras bay ku geeriyootay waa saxaabiyad waxay nabiga weydiisanaysaa ustul bahriga ina raacdo amiirul muuminiin baa guursaday dabeetana ciidankii bay raacday dabeetana xagga iyadoo jihaad lagu socdo ayuu axad saxaaba yiri ya rasuulullaahi bal mutalxa ay halkay maraysayo toorayar bay hoosta ku sidataa buu yiri jihaad baa lagu socdaa markaasuu nabigu intuu qoslay buu yiri maxaad ku falaysaa gaal baa silay bay tiin halka kaga jeex jihaad baa loo socdaa midideeda iyana sidataa waxay leedahay waxa silay mid gaal aad ugu soo dhawaado aad halka kaga jeexday umma bay hayeen dadka kamida laakiin sidan la isu hoos eriyayo maaha iyo sidan loo loolonsiinayo ninku kan haduu qabto gabadhu kan ma qaban kartaa maaha kaasi waa mid sida dadka badhay meel yaro fog la rabaana maaha aqliyada idinku wax ku qiyaasaysana waa aqliyada halkan taale mujtamacan loolamayo waxa kan ma qaban kartaa war suuradan buu ka gadisay mujtamaca muslimka ya awalan kana suuradii mujtamaca muslimka uu lahaa dabeetana eega dumarku waxay qabtaan iyo raggu waxay qabtaan cidina isma qabsan jirin cid walibana xuquuqdeeda way haysatay wallahu a'lam جزا الله خيرا سؤاشان waxa uu leeyahay qoruhu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh sheekh bal waxaa nooga warbixin naga siisaa dacwada iyo ducaada iyo dhibka ka dhacay maarta gobolka waqooyi galbeed ee Soomaaliya iyo waliba maarta arrimihii ka dhacay magaalada Burco iyo sida maarta yaani ducaadu ay uga qayb qaateen macnaha arrintaas inay damiyaan dhibta ka dhacday waa dhibta ummadan isku midabkii afka sheegata meel kasta ay joogtaba iska haysta waa ma'saadkaasi ah nadwa siyaasiyadii shalay lagu sheegay fi ay yar masaalix leh inay dad isku tunto fi ay yar oo masaalix gaar ah leh inay tashaararu gashadaan dadka ay isku tumaan dabeetana waa shacab muslima oo la isku tumay dabeetana birta iska aslay dhibaato aad u badan ina ka dhex dhacday wadaadadu ummad gaaro oo si gaar ah looga warramo maaha muslimkaasi ka mid ahaayeen wixii muslimka ku habsaday un baa kula habsaday wax gaaro iyagoo wadaadnimo loo dilayna ma jirto iyo wax wadaad la yidhaahdo iyaga la eriyanayay laakiin wuxuun bay ka mid ahaayeen madaaficdii magaalooyinka lagu qasay dadkii wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay ayuun bay ka mid ahaayeen nisbe iyaga u gaari ma jirto waa nisbadii dee bulshada ay ka mid ahaayeen bay ka mid ahaayeen waa jirtaa dad waaweyn oo culamadii marmuuqiinta ahaa ee laga yaqaanay bal raggii tafaasiirta iyo culuum alxadiid iyo culuum alfiqiga ka dhigi jiray rag kamid ah ku geeriyooday cabdiraxmaan axmed yaasiin raximahullah shaab ah raggii ugu mudnaa ee degana gobolada tan aan odhan karana walaa nuzaki cala allahi axada dadkii ugu aqoonta badnaa baanu ka mid ahaa waa ka mid dadka muslimiinta ee meesha lagu laayay madfac baa ku dhacay dabeetana wuu dhintay dad badan oo kaloo abriye ana way dhinteen waxaana ku dhinteen waxa la isweydweydaarinaya la isku afuufayay xagga iyo xaggaba loo afuufayay dadka muslimiinta ana waa shaqo u taala inay dadka muslimka dhibta ka feedaan inay isku dayaan inay silaax ka dhex raadiyaan inay isku dayaan naf muslim oo bixi lahayd inay joojiyaan waxa laga yaabaa dadka inay dawlad islaamiga goorma imanaysa ay waxa umay ka fakaraan laakiin qofka muslimka agtiisa ku baqtinaya in badan kama fakaraan iyo say u badbaadin kari lahaayeen dad muslimiin oo istilaya inay kala joojiyaan in badan kama fakaraan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa faasilixuu baynahuma wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday laba kooxood oo mu'miniinta ka mid istilaan waa dhex gala baa ilaahay yidhi oo hagaajiya dhexdooda meel kastaba ha joogaan badbaadintoodu hadaad weydiinayso dowrkaad ka qaadan karto waxaan ku odhan karaa ey la badbaadiyey ayuu nebi maxamed ku tilmaamay in dembiga lagu dhaafo tacrifuuna eygu wuxuu qiimada dadka muslimiinta agtiisa ku leeyahy wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin baa haraaday dabeetana ceel buu yimi ceelkiibuu ku dhaadhaco wuu ka soo cabay dabeetana wuu ka soo baxay
markaasuu arkay ey halkan haraadan oo ciidda cunaya eygii ciidda cunayay buu yidhi wallaahi eygaa wixii ahayey baa haya waa ey ceelkiibuu ku noqday dabeetana wuxuu waayey waxuu u daro iyo wuxuu ku waraabiyo khufkiisuu la baxay xadiiskii saxiixaynku ku yaalla khufkiisuu la baxay dabeetana wuxuu u dhaadhacay ceelkii waa kabtiisii buu bixiyo intuu ceelkii tegay buu biyihii daray afku ku soo qaaday isagoo afka ku siduu jaranjaradii dabeetana la soo koray eygii buu waraabiyey dabeetana eygii wuu noolaaday nebigu wuxuu leeyahy fashakara allaahu lahu ilaahay baa uga mahadnaqay dabeetana alle dembigiisu dhaafay ey buu badbaadiyey ilaahay baa dembigiisa dhaafay ku kalena xadiis saxiixa wuxuu nebigu inoogu tilmaamayaa bisad bay dishay dabeetana ilaahay baa cadaabay bisad haweenay baa bisad xidhatay buu nebigu yidhi dabeetana may sii daynin dhulkeeda waxa ka soo cuntee waxna may siinin oo may quudinin dabeetana way dhimatay bisad tii dishayna naar bay gashay ey kii waraabiyeyna jannuu galay shimbirkii ka argagixiyeyna xadiidku imaamu axmed warinayey shimbir yar baa nebigu isagoo saxaabo la socday meel u yara xaajo taga u soo noqday mid bay labadeedii dhashaha ka qaateen tiyo baalasha ka yara bifbifsiinaysa oo giiris ka kicisay buu nebigu arkay man fajaca haadihi biwaladayha buu nebigu yihi waar tan yaa labadeedii ilmood ku argagax geliyey waa rud u celiya buu nebigu yidhi ilmaheeda idan hooyada laga balasbalasiinaya ilmaheedii midna kabta uu tuuray midna uu kabta laalaadinay midna xabaddu ku dhacday aday kaa sugaysaa inaad u gargaarto ilmaha haraadku dilayee qaxay ee markii afraad qaxay yani dadkaan waxba haysan daa aniga xaaskaan qaba ama carruurtaan dhalay mar afraadkii bay burco ka qaxday waa force time ayay qaxeen dadka meesha degan baan intaa qaxinayay ilmaha yaree sidaa uu jiitamaya aduu gargaarkaaga baahan yahay waxaan leenahay war lagu tabatucaan uguma hayo sheeko dadku ay ku sheekaystaan naagteeda ma taalo ama burca ha ka dhacdo ama xamar ha ka dhacdo ama baydhabo ha ka dhacdo ama meel kale shiishaan ha ka dhacdo bosniya ha ka dhacdo akhbaar lagu tanafuso lagu raaxaysto oo la yidhaha mustafa oo caalamulislaami ka waran ama maxaa ka dhacaya agtayda ma taalo waa qadaaya dad muslimiin oo madhanaya meel kastaba ha joogaane haddii islaamku 1400 sano ka hor uu xuquuq xayawaan caynkaa u sugay inaga caqligeenna waxaa laynoogu sheekeeyaa reer galbeed baa xuquuqda dadka ilaaliya reer galbeed baa xuquuqda xayawaanka ilaaliya waxaasi waa hamash alakhbaar islaam baa ilaaliya xaq bini aadam xaq xooleed xaq daayeer xaq cid walba ilaahigii abuurtaa mid walba xaqiisa u ilaaliya haddaa caawin kartaan ama badbaadin kartaan waa xil idin saaran kuwa nagtiina ku baktinaya kuwa meelfa ku baktinayaba dadkii culammadee meesha joogayna waajibaadkoodii sharciga ahaa inay wax islaaxiyeen aad bay ugu dadaalayaan juhdi badanoo hore way ku bixiyeen odayaal badanoo qabiil iyo cid badanoo meesha joogtay way la kulmeen dadyow badanna muddo dheer bay la kulmayeen bilo ayay hadda ku dhex jireen oo u raamaysteen oo u dhibaatoodeen oo wax walba u galeen haatanna nataa'ijta qaarkood bay rajaynayaan oo dadyow badan oo kuwii wax ka go-ayeenba u aqbalay inay wadaadadu dhexdhexaadiyaan oo iska hor yimaadaan laakiin dhibaatada dhaqaale iyo gacanyarada ay ka cabanayaan waa wixii maanta laydiin weydiinaya laydin lahaa yaa caawinaya dadka muslimiinta ah ee dadkan isla dhexdhexaadiya idinma lihi yaa caawinaya kuwa isdilaye waxaan idin lahaa war yaa caawinaya dadkan isku dayaya islaaxu daati ilbayn inay dadka ka dhex raadiyaan laakiin akhbaar lagu tafakuho agtayda ma taalo wallahu aclam